ويهي hadduu marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur iskii isaga masaafuray qayb bay ka noqon doontaa barnaamijkayga hadduu alla idmo waan idiin soo gudbin doonaa arrimaha ugu muhiimsan shabaqa loogu talagalay Mukhtaar Robow ayaanu diiradda saari doonaa hadduu alla idmo Mukhtaar Robow shabaqii loogu talagalay ayaanu il gaara ku samayn doonaa baydhabo oo hadda warar kala duwan iga soo gaarayana waan idin maqashiin doonaa hadduu alla idmo Mukhtaar Robow arrintiisa ayaan gordhow gudageli doonaa balse war degdega oo magaalada baydhabo hadda iga soo gaaray salaamu calaykum baydhabo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكسر الجوان. وكان هذا مثل لمدة وركي قدام بينما عاو بينما ما حكى جرا. وحنا سوق جارتي معركتين بينما هرت مقرر وقاب الله قاب في دولة أي وقرر يبدأ هيد دورشنا بالملاجئ سا ودور قيمات أي مرتي صحافة معركتي خفرقة بالصومالية أما دليل الدولة توضن كتوحي إسقوط استدي أيجنا نقول نقلاص السلطان إن كل أديان وح الله وحي معركتي لو قدونا يروه إلا غار تقدر رسول إنه كتاب مرة والبنا يفشليان ما أنت قدام بسنين معركتي فهد ياسين قلت له جماشة والعجاء يكون يبقى يقيب قيمة بدن معركتي ضد الشعب كأها إنه بركعية أمر وضد وكل رأبي أو مظاهرات ماشي كأبولا ولكن مجاله يقصوا دري قاب جناعسي بان فشلناي أو سوق وجاني هتلاقي دجناء وحيابي وسميناي وحكى له علي أنت عيب في دولة إيوالتها كياني إن لابد جوري معركتي أو بمجمع لابد وفتي لابد بري أسبوع كتو سد حفظة وعكسو جاري في جنبنا الحمد لله وكتو وحكي جارين وحكى له علي ساقي السيدي إن تنلا إنك إذا ما توديك يدجين هين كتالو عربارك بيدلا أيام دبلا وش ده دولة واحد رادين يسا في الله كذي عرقلت وقلنا له هيد معركة السياسات أما وكعلنا له هيد مجالده كدبنا عندما لما أنت جوا عندما كبدان يسوي قلنا له هيد ساسنا يكون خبرنا يشوف صار ومقرته marka bambada lagu weeraray garoonka baydhabo ayaa rabaa muhiimad gaar ah marka yaa weeraray yaa bambadaasi iyo qaraxyada ka geysanaya baydhabo xilligan بمجمعات لابد وفتي سد حطوط معركة كلها وعنتي ونن حلبان هراي أهان جري وهذا جيريو يقولوا وسجل لي هاي لما أوجا وحى حتى أوجاني إن عندما لو أبو لقاب شباب أهان إن لصمينا يو أو معركة مجالد البوق ككعين عيان وحى الرباقات كل جسوا جلها عندما ما أنت جوا عندما أدي لها بقول يصب الجارة يو ما نقص إلا عندما مختار وقبل كرام أما دبعتوا جيسن كرام معهم دولة waxay raqaadka ay kula wareegi lahayd magaalada Beelawo faantay marka waxay sameynaysaa carqalad bay gelinaysaa magaalada oo buuq ka keenaysa waa mahsan tahay qaraxyada baydhabo ka dhacay goordhow iyo weeraro loo geysanayo garoonkii diyaaradaha baydhabo arrinta nabadgelyo ee magaalada baydhabo aad ay u qasan tahay qodobada goordhow aad maqli doontaan qorshe halisa ayaa Mukhtaar Robow la dabacsan yahay dawladda Villa Soomaaliya waxay go'aansatay Mukhtaar Robow tabar walba oo ay noqoto in gacanta lagu dhigo waxaad maqli doontaan qorshaha cusub ee Mukhtaar Robow gacanta loogu dhigayo balse waxaan ka hormarinayaa maanta waxa kulmay mas'uuliyiin isugu jira xildhibaano iyo waliba siyaasiyiin horay uga mid ah siyaasiyiintii maamulka koonfur galbeed siyaasiyiinta Baye Bakolna qayb ka ah waxaad maqli doontaan goordhow qorshaha Mukhtaar Robow la damacsan yahay balse marka hore waxa kulmay jawaari gudoomiye mursal iyo waxa kulmay xildhibaano go'aan ayayna ka soo saareen doorashada koonfur galbeed dadkii way isku duumeen Mukhtaar Robowna wuxuu helay garab ka bilow jawaari ku gee ilaa iyo mursal ku gee xildhibaano aad u fara badan waxa rabaa markayna dul istaago kelmadda muhiimka ah oo Soomaali inay garowsato ay u baahan tahay waxay tahay saddexda qodob ee maanta ay soo saareen jawaari mursal iyo waliba aadan madoobe iyo xildhibaano kale ayaan rabaa marka inaad wax weyn kala socotaan waxay ku heshiiyeen jawaari iyo waliba xildhibaano aadan madoobe iyo maxamed mursal waxa la yiri saddex qodob dawladda Soomaaliya ma sameyn karto haddii ay dawladda Soomaaliya saddexdaas qodob koonfur galbeed ku samayso waxay mas'uuliyiintu ballan qaadeen inay tilaab cad oo dhinaca sharciga ah ay qaadi doonaan go'aanada ay soo saareen waa saddex qodob waxayna kala yihiin in ay dhacdo doorashada koonfur galbeed iyadoo xor ah oo aynan dawladdu faragelin haba yaraatee doorashada koonfur galbeed in ay dhacdo iyadoo xor ah oo aan dawladdu aynan faragelin ama dawladda dhexe aysan faragelin loona madax banaaneeyo guddiga doorashada iyo waliba siyaasiyiinta tartamaya qodobka labaad oo jawaari aadan madoobe iyo waliba maxamed mursal ay gaareenna waxa uu yahay inaysan jiri doonin qof gaar ah oo laga reebayo doorashada
inaysan jiri doonin qof gaara oo doorashada laga reebayo meesha laga saaray in mar dambe ayna dhici doonin Mukhtaar Robow ma ogolin iyo wax lamid ah qodobka saddexaad oo ay ku heshiiyeen waxay tahay ciidamada xamar laga qaaday oo la geeyay Baydhabo in degdeg loo soo celiyo in ciidamada la soo celiyo inaysan jiri doonin qof doorashada ka reeban iyo waliba inay doorashada u dhici doonto si xalaal ah oo ay ku jirto Soomaalinimo cid laga reebayana aysan jirin haddaba saddexdan qodob waxa saxiixay Aadan Madoobe Maxamed Mursal Jawaari iyo xildhibaano kulan ku qaatay magaalada Muqdisho haddaba isbahaysiga ay sameynayaan siyaasiyiinta koonfur galbeed waxay murugo iyo bog cusub u tahay villa Soomaaliya waxayna tani sidoo kale ku qasabtay maanta in ay bedelaan qorshihii ahaa Mukhtaar Robow xar ilaalintu inuu warqad ka soo saaro horta dawladda waxa dhuunta u galay oo mar walba sirta dawladda gudbinaya warbaahinta xorta ah maxaa yeelay dawladdu marka hore xar ilaalintay waxay ka codsatay warqad inay soo saarto lagu xiri karo Mukhtaar Robow warqadii oo la diyaarinayo ayay warbaahintu sheegtay markii warbaahintu ay sheegtay oo barnaamijkan aniga aan wado habeenkii xalayto ah lagu soo bandhigay dawladdu candhuufay dib u liqday markay aragtay in sirtu ka shifantay oo xirceleyntii qaranka telefoon loo diray oo lagu yiri waan la soconnaa inaad diyaarinayso barnaamij sida ah waxay dawladdu bedeshay qorshihii hore waxaana la sameeyay barnaamij cusub oo Mukhtaar Robow lala damacsan yahay caawa waxaan idin hayaa wajiga cusub ee Mukhtaar Robow iyo dawladdu sida ay doonayso inay ula dhaqanto balse marka hore 10 December waxa dalka ku soo noqonaya siyaasigii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dawladdu waxay u martay wado walba Cabdiraxmaan in kaarka laga rido Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa la yiri marka koowaad isaga oo magaalada Muqdisho lagu dhibaateeyay oo waliba dadkiisii la xasuuqay dawladdu ayna raali gelin siin ayaa kaarkii laga gubay oo ummadda waxa laga dhaadhiciyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaligiisa badda Soomaaliya gatay maanta soo noqonayna wajigiisu waa la bedelay warbaahinno aan jeclayn inaan idin wadaago oo saaxiibaday ay wada qoraan ayaa waxa lagu soo qoray ciwaan aniga iga yaabiyay waxa la yiri siyaasiga iskii u masaafuray siyaasiga iskii isaga masaafuray ayaa la yiri waxa meesha laga saaray dawladdu inay qasabtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay dawladdu ku qasabtay Cabdiraxmaan inuu Muqdisho ka tago wala dafiraya ummadii baa la jahawareerinaya maxay la dadka Soomaaliyeed inda ku garaad lay noqdeen waxay noqdeen inda ku garaadle waxay noqdeen inda ku garaadle wax uun ay arkaan iska aaminaan dawladdu waxay ogaatay marka in la bedelo wajigiisa si soo dhaweynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur loo sameeyo inta aan la gaarin la sii bahdilo ninkii waxa la yiri iskiiba u masaafuray waxa meesha laga saaray dawladdii Muqdisho ka cayrisay Nairobi uga daba tagtay Nairobi kula dagaalantay sidoo kalena warbaahinta u marsiisay aflagaado Nairobi ninka lagu yiri uma qalantid in aad shir ku qabato Cabdiraxmaan Cabdishakuur ahaa waxa loo adeegsaday xildhibaanadii Kenyaanka ahaa waxa la yiri ha laga cayriyo Nairobi ninkii baasaboorkiisa qayre uu gacanta ku dhigay ninkii baasaboorkiisa qayre uu ka haystay in muddo ah ninkii ciidamadu ay ku xasuuqeen magaalada Muqdisho dadkiisii miyuu noqday nin iskii isaga masaafuray marka koowaad Soomaaliyeey waxa tiin dad aqoon leh inda ku garaalaha noqonina internetka ka baara Cabdiraxmaan Cabdishakuur falal dambiyeedka Muqdisho loogu geystay internetka markhaatiga nool ah waa la weeraray dawladdu waxay tiri hal miskiinka wasiirka amniga la soo diray wuxuu ilmihiina nahay raali ahaada waan ceeboonay raali ahaada kaaga sii darane dawladdu waxay tiri magdhow kaliya bixinayna horta waxaan ogaaday ninkani Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu yahay nin aan dhaqaale u baahnayn waxa loo ballan qaaday dadkiisa la xasuuqay in la siinayo magdhow waliba waxa la yiri lacagta adaan kugu wareejinayna ninkani isagoo dalka ka maqan oo wali waa dibad joog ayuu yiri haddaad magdhow bixinaysaan si official u bixiya fiiri waxa la yiri talaan ku siinayna waxa la yiri xilal lagu magacaabo walaalow raali ahaw waxa la yiri lacagta waa lagu siinaya magdhow illa wali wuxuu leeyahay haddaad magdhow bixinaysaan official ku bixiya marka kadib waxa la bilaabay barnaamij kaarka loogu gubayo oo Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo xildhibaano waxa jira hadda qoorta loogu jiro Cabdullaahi Maxamed Nuur hadda dawladdu dacayadeeyay 42 milyan ayuu ka shifay Cabdullaahi Maxamed Nuurki 42 milyan ka shifay waxa la soo sameeyay barnaamij la leeyahay Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu kamid yahay dadka 9 sano ku taajiray waxa la yiri xildhibaankaas wuxuu kamid yahay dadkii masaakiinta qaxootiga raashinkii loogu talagalay ku taajiray Soomaalida dhanba hadii baraarugeen waxay leeyihiin war Cabdullaahi la sheegay ma intaas ba war qofka la kaarkiisa la gubayo yaana laga dhigin in markaasi adiga inda ku garaadla kaliya aad noqoto war kala barta siyaasiyiinta dhabta ah war ninka adiga ku codaynaya ayaa lagu diray
warfiiri xildhibaan walba markii lagu yiraahdo kaarkiisu waa eber hadda waxa la sheegay Cabduqaadir Cusubla la soo diyaarin rabaa xildhibaan Cabduqaadir Cusubla waxa la tusi rabaa inuu yahay nin aanan qofna hogaami karin waxa ku xigi doona xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waxa la idinkaga sheekayn doona Fiqi taariikhdiisa oo waligay meel ay ku qoran tahay aanan arkin waxaan idin ogeysiinaya xildhibaanada lagu fadeexaynayo internetka xildhibaanada lagu bahdilayo barnaamijyada la soo edit gareeyay dhammaantood waxay ku taxalluqaan xildhibaanada ka hor yimid nabad iyo nolol waxa loo samaystay rag loogu talagalay in ay mid kaarka uga gubaan waxa loogu talagalay mid walba in lagu akhriyo profile-kiisa oo waxba ka jirin hadda Cabdullaahi nin la yiraahdo ayaa ugu horeeyay waxa ku xigi doona Cabduqaadir Cusuble xildhibaan Fiqiya ku xigi doona Soomaaliduna maanta ma awoodo inay tiraahdo war maaha sida iyo waa sida waxa la yaabay qaabka taariikhda loo akhriyay xildhibaankii aad wada daawateen aniga waa ii dhimantahay waxa la yiri baahidii ama abaarihii ku dhufta 2011 ayuu xildhibaanku ku taajiraa leeyahay deeqdii raashinka ahayd ayuu iibsaday markaasuu hadda 50 milyan leeyahay bal eeg Soomaalida dhan waxay leeyihiin war ninku la tuugo ahaa waa la ogaaday marka Soomaalida waxa la ogaaday barnaamijyada kaararka dadka looga gubo inay Soomaalida iska aaminayaan maxaa yeelay aqliga Soomaalida wuxuu noqday dad laga dhaadhiciyay hal wasiir badgatay dad baa nool oo laga dhaadhiciyay hal wasiir badii Soomaaliya gatay markaasay aamineen waxay leeyihiin war waa wasiirku aba tuuge badda Soomaaliya uu gatay maxal qof bad Soomaaliya gadan kara Soomaalida markii waa la garowsaday in badda Soomaaliya uunan hal qof gada karin way aamini waayeen maanta markii la yiraahdo marka Fiqi isbaara u ooli jirtay isgoyska lambar 4 way iska aaminayaan dadka haddii maanta la yiraahdo Fiqi wuxuu dadka leeja uga qaadi jiray magaalada dhexdeeda dadku iska aaminayaan ilaa waa dadkii aaminay hal wasiir bad Soomaaliya gatay wax walba dadka Soomaaliya gatay badda Soomaaliya hal nin hadduu gadan karo waxa meeshii ka baxaysa qof kasta maskaxiyan inuu sidaa noqonayo waxaan rabaa markay inaad ogaataan badda Soomaaliya qof kaliya ma gadan karo war yaanan ummadda beenta la idinkaga sheegin war xildhibaanada barta war Cabduqaadir Cusublo tuuga bari la idin keeni doonaa war Fiqiyo ka darano isbaara u taala bari lagu sheegi doonaa ha aaminin ummadda kala ogaada kaarka la gubayo xildhibaanada mucaaradka kaliya barnaamij laga diyaarinaya inta kale barnaamij laga ma diyaarinayo qof walba oo 42 milyan ay xukuumadda dhacday yiri barnaamij laga soo wadaa Cabdullaahi Axmed Nuur hadda ugu horeeyay waa daawateen Cabdullaahi Axmed Nuur waxa la yiri 9 sano ku taajiray waxa la yiri 50 milyan oo haysta wax ka jiro haba yaraatee malaha xildhibaanada kalena saasay noqon doonaan walow aanan anigu waxba u gafaynin dadka diyaariya barnaamijkaasi oo aan leeyahay waa maasantiin balse ummadayda inaan wargeliyo muhiim ayay ii tahay ninkii Mukhtaar Roobow ahaa filla Soomaaliya go'aan ka gaartay dhuunta u galay filla Soomaaliya waa ka dhaqaaqi laaday war shacabkii lagu diray wali waa soo taagay war waxa la yiri waa argagixiye wali waa soo taagay waxa la yiri lacaga lagu siina waa diiday waxa la yiri noo ogolow xildhibaanada inaan iska maamulno Mukhtaar Roobow waa diiday ninkii marka dhuunta u galay filla Soomaaliya markii hore saacado ka hor waxa la damacsanaa in xer ilaalinta warqad laga soo saaro oo la yiraahdo Mukhtaar Roobow warqadaasi maxkamaday ka timid dadweynuhu way ogaadeen maxaa yeelay warbaahinta ayaa soo bandhigtay xalay ayaan barnaamijkay ku soo qaatay kadib dawladdu way bedeshay marka xer ilaalinta qaranka warqadii ka iimaanaysay waxa lagu bedelay arrin kale oo halis ah ciidamada Itoobiya saraakiil kamida ayaa villa Soomaaliya kulan kula qaatay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo Fahad Yaasiin waxaana la go'aamiyay waji cusub in loo yeero Soomaaliya dhigihiina fura ninkii maxkamad warqad ka timaado waxa la yiri waa lagu ceeboobaya maxaa yeelay shacabkii way ogaadeen hadduu Brito xer ilaalintii qaranka oo warqad intuu la soo istaagay yiraahdo maxkamada u yeeraysa Mukhtaar Roobow cid aaminayso malaha dadku qoryo qaadanayaan dawladdu waa la dagaalamaya waa la ogaada marka ilaa sirtu way ka shafantay sirta labaad ee galabta la gaaray saraakiil Itoobiyana ayaa loo xil saaray Mukhtaar Roobow in la soo qabto dawladuna ay awood u adeegsato ciidamada Itoobiyana ka qayb qaadanaya soo qabashada Mukhtaar Roobow ciidamada Itoobiyana ayaa ka qayb qaadanaya soo qabashada Mukhtaar Roobow ugu badnaan 5 maalin gudaheed waxa Mukhtaar Roobow loogu talagalay marka shabaqa Baydhabo Itoobiyana ka qayb galaya amarkaasina maxkamadda Soomaaliya ka soo baxda la leeyahay waxaana galabta loo gudbiyay ciidanka AMISOM warqad ka dhan ah oo ay dawladdu codsanayso
waxay dowladdu dalbatay maadaama ciidamo awood leh baydhabo aynan u joogin in loo soo qabto mukhtaar robow la keeno villa soomaaliya waxaa la geyn doonaa sida qorshaha loo wado oo aan caawa ku ogaaday halka uu ku xiran yahay xasan daahir aweys sheekh xasan daahir aweys ayaa loo geyn doonaa mukhtaar robow waxaana loo adeegsanayaa ciidamada etoobiyaanka ciidamada etoobiyaanku waxay wataan warqad dowladdu ay amisom ka dalbatay hadalkayga aad u fahmo amisom ayay ka codsatay ninkani waxaa loo gudbiyay amisom warqad ka dhan ah oo maxkamadda qaranka ay qortay oo loogu talagalay intuusan xeer ilaalintu akhrin in amisom loo marsiiyo waxaana galabta la ii sheegay in mukhtaar robow dowladdu ay u adeegsan doonto awood ciidan marka haddii dowladdu ay duulaanto mukhtaar robow waxaa laga yaabaa inuu mar kale duurka galo waxaa laga yaabaa inuu mar kale ka baxsado magaalada sidaa darteed amisom ayaa loo gudbiyey warqadda amisom ay gacanta ku hayso etoobiyaankuna ay doonayaan waxay fulin karaan sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeelay baydhabo awoodda koowaad ciidamo etoobiyaana iskale fiiri hadalku yuusan fudayd kula noqon iska fiiri hadalka inta aadan dhadhamin militariga jooga baydhabo awoodda koowaad etoobiyaankaada ciidamada Ethiopia ee baydhabo jooga waa amisom maanta warqad maxkamadda sare ka timid xaqay u leeyihiin inay soo qabtaan mukhtaar robow saas ugu gacan jira marka wada kale waa la waayay dhan kasta dawladdu waa laga soo xiray dhan walba dawladdu way ka soo xirantay maanta waxa is asilay lafta gareen rajo kale oo la qabo haba yaraatee malaha waxa la raadiyay nin ay ilma adeer yihiin ama musharax ku qabiila mukhtaar robow waa la soo waayay xeer ilaalintii qaranka warqadii diyaarisay warqadii dadweynihii Soomaaliyeed way ogaadeen warbaahinta baahisay mar kale ayaa la yiri mukhtaar robow inuu noqdo madaxweyne waa habeenkii xalay u tagay ciidamada amisom ayaa loo gudbiyay saraakiil Ethiopiana oo amisom ayaa madaxtooyada villa Soomaaliya ku qaabilay saddexda mas'uul dalka ugu sareeya waxaana la yiri mukhtaar robow waa argagixiyo noo soo qabta waxa dhici doonta marka si daboolan ayaa loo weerari doonaa goobta uu baydhabo ka joogo mukhtaar robow warqadiisu markay maxkamada ka timaado amisom awood maanta ka horstaagi karta malaha ma jiro ciidamo baydhabo jooga oo Ethiopiaanka iska celi karaya waxa idin muuqanaya marka awoodda labaad ee loo adeegsanayo inuu yahay awoodii shacabka waa la waayay midii sharciga waa lagu ceebooba baa la yiri maxay yahay xildhibaanadii tulkiisa ayaa kulmay meel ay ku wada kulmeen maxamed mursal jawaari iyo aadan madoobe yaa waay xer ilaalinta warqad akhri karta marka maanta xildhibaanadii digli milifla kulmay waxa kamid ah maxamed mursal waxa kulmay jawaari waxa kulmay aadan madoobe iyo xildhibaano badan yaa waay marka xer ilaalintii qaranka dhihi kara hal soo qabta ninkaas waa ceeb dawladii sharcigeedii mugdi galaya waxa loo fasiray marka in la yiraahdo ninkani wali falal argagixiso hadda way bilaabatay eeg sababta shirqoolka loogu dhigay galabta caawa hadda maqribkii ayaa la weeraray garoonkii baydhabo bambaana ayaa lagu weeraray waxa la yiri bambaanadan iyo wax walbaba asaga ka dambeeya waxa la rabaa qorshe qarxin ah baydhabo in laga bilaabo lagu dilo shacabka la yiraahdo robow ayaa ka dambeeya ugu yaraan 19 bishi inta aan la gaarin iga qoran 19 bishi inta aan la gaarin dilalka iyo bambaanada ka bilaabo doonto baydhabo oo qaarkood dhacay fiidnimadii caawa waxa dusha loo saaraya mukhtaar robow waxaana la ii sheegay ugu dambeyn inay amisom howlgali doonto la soo qaban doono waxayna amisom dhihi doontaa dawladdan ku wareejinay cid ka hadli karta malaha ma jirto UN-ku inuu ka hadli karo maxaa yeelay dawladdu qofkay u baahato way soo qaban kartaa marka waa fursad weyn oo villa Soomaaliya ay kaga faa'iideysan karto mukhtaar robow haddii ay maanta mukhtaar robow baydhabo uga faa'iideysan weyso dawladdu waxay gacanta ku haysaa yaraatee malaha sababtoo ah baydhabo waa magaalada kaliya ay joogaan amisom maamul goboleedyada kale amisom ma joogo amisom ka dhabta ah ee dawladda la shaqeynayo maanta waxay joogaan baydhabo marka suurtagal waxay noqon doontaa in la yiraahdo qaraxyada iyo dilalka iyo amni darradaba waxa ka dambeeya mukhtaar robow ummadda koonfur galbeed mid ogaada qaraxyada galabta bilowday ee garoonka lagu weeraray bambaanooyinka lagu weeraray garoonka baydhabo bambaanooyinka lagu weeraray magaalada bartamaheeda dilalka qorsheysan oo xaafadaha baydhabo ka dhacaya shabaqa loogu talagalay waa mukhtaar robow wuuna ku soo dhacaya waxaana loo asteeyay mukhtaar in gacanta lagu dhigo waxa waliba dambiyada ugu waaweyn oo hadda laga gudbiyay xer ilaalintuna ay akhrisaa waxa kamid ah inuu sheegtay qaraxyo oo kamid ah qaraxii hotel shamo qaraxii hotel shamo ka dhacay December 3deedii afayeenka al-shabaab ayuu ahaa
waxa la yiri ninkii marka December 2009 wasiiro iyo arday la baabiye sheegtay sidoo maanta madaxweyne ku noqonaya dawladda marka qorshaha ay leedahay ayaa ah in ummadda la tuso in maanta Mukhtaar Robow uunan u qalmin inuu madaxweyne ka noqdo deegaankaasi qorshahaasi Etoobiyaanku way fulinayaan haddii aynan soo ifbixin siyaasiyiin ka warqabta oo runta loo sheego marka sidee xal loogu heli karaa hal maado qodobadii galabta ka soo baxay xildhibaanada waxaa ku jira in ciidamada Muqdisho ka tagay laga soo celiyo magaalada marka waxaa kaloo la ii sheegay inay jiraan ciidamo gaara oo koonfur galbeed oo la diyaariyay loogu talagalay ugu yaraan in Mukhtaar Robow arrintiisana xal loogu keeno ummaduna la yiraahdo ciidamadii bedeli lahaa waa kuwan haddii marka halka maado ay amisom ugu suurtagelinaa waxaa ka mid ah haddii ciidamada koonfur galbeed ee la diyaariyay oo la yiri waa kuwa bedelaya caasimada kuwii laga waday waa kuwa kaliya ee Mukhtaar Robow maanta ka badbaadi kara gacanta amisom because amisom saddex dukumiintiyo ku xiri kartaa dukumentiga koowaad oo lagu xiri karo Mukhtaar Robow waa profilkiisii hore arrinta labaad ee lagu xiri karo Mukhtaar Robow waa arrin ku aadan hanjabaad uu ku yiri xildhibaanada cidii idooroweysa yaa weylak xildhibaanada qaar ayaa yiri anagu ma hayno cadeyn laakiin xildhibaanada qaar ayaa waxay warfidiyeenada u sheegeen odagu waa noo dhaartay yiraahdeen qodobka saddexaad ee lagu xiri karo maxkamadda sare ee dawladda ama xir ilaalinta qaranka ayaa ku baahan maxaa yeelay dawladdu ciidankeedu kama howlgeli karo Baydhabo sida darteed amisom saddexdaasi wajiga ku qaban kartaa Mukhtaar Robow waxaana ku badbaadi kara hal maado ciidamada jooga Baydhabo oo xamar loo soo celiyo koow wuxuu kale ku badbaadi doonaa ciidamo la diyaariyay oo koonfur galbeed oo la yiri amniga doorashada ay sugayaan haddii ciidamadaasi la dadeji waayo Mukhtaar Robow falal dambiyeedyo dawladdu ay ugu talagashay ayuu ku gacan galayaa halka waxa lagu soo afjari doonaa marka qisada dabada dheeraatay ee Mukhtaar Robow waxa rabaa marka Mukhtaar Robow iyo sida ay dadka u jecel yihiin inta aan ka ogahay inaan ummadda u gudbiyo horta ninkii sheekh Mukhtaar Robow laayay dadkii kalsooniyo ka kasbaday reer Baydhabo waxay yiraahdeen hana dilo ama hana dhaawaco annaga asagaan taageersanay waxay yiraahdeen ama hana qarxiyo ama toos hanoo maamulo isagaan taageersanay waxana marka kelmadda ah isagaan taageersanaa goormuu kalsoonidaasi kasbaday goorma ninkani sidan uu taageero uga helay shacabka koonfur galbeed maalin ayay ahayd waxaa jirtay argagixisadu maalin inay Baydhabo gacanta ku dhigtay rag siyaasiyiin oo dawladii ka tirsan ayaa maalintaasi ku go'doomay guri ku yaala Baydhabo Mukhtaar Robow ayaa badbaadiyay alla ka sukow oo yiri faraha ka qaada wadadan hamara waxa lagu helay marka Mukhtaar Robow hal mabda oo kaliya inuu yahay qof mabaadi'dii argagixisada ka aamisana badbaadada dadka siyaasiyiinta u dhashay koonfur galbeed ninkani waa nin isagoo argagixiye ah oo waliba dadka xasuuqayay ayuu siyaasiyiinta koonfur galbeed badbaadi jiray ninkani waa nin mabda uga tagay argagixisada la igugu sheegay inay tahay banaynta dhiigga micna darrada shabaabku uu ku laynayo dadka ninkani waa ninkii ka cararay markii dhibaatadu ay ballaaratay dhowr jeerna ay barbariyeen argagixisadu ninkani waa nin kalsooni ka haysta dhalinyarada dhibaatada ba'an ay macnaha ku jira ee ba iyo bakool ninkani waa nin u dulqaadan waaye war hadday baahi ka dhacdo Soomaaliya waxa baaba'aya waa koonfur galbeed digli milifla cid ka dhimasho badan malaha markii ay dhibaato ka dhacdo Soomaaliya cid ka baaba badan malaha war qaxootiga iyaga buuxiyay xerooyinka Muqdisho waxa ku dhibaataysan shacabka digli iyo milifle nin ka fikiraya oo Robow ahayn mid jira baa lagu yiri marka kadib waxaan baaray barnaamijka ah maxay tahay qorshaha rasmiga ay dawladdu u doonayso qof iyaga matala inay Baydhabo geyso laba maado ayay dawladdu u doonaysaa qof iyaga matala inuu Baydhabo tago Baydhabo horta laba qorshe laga leeyahay qorshaha koowaad waa mustaqbalka siyaasadeed ee nabad iyo nolol hadday Baydhabo ka baxsato rajo malaha horumarna malaha fiiriya hadday Baydhabo nabad iyo nolol gacanteeda ka fakato lagama yaabo inay dib u soo laabtaan waliba qatar ay ku galayaan labada sano ee soo socota laba sano ee soo socota waxay qatar ku gali doonaan haddii gacanta nabad iyo nolol ay ka badbaado maxaa yeelay tirada xildhibaanada ugu badan ay dawladdu ku tashato waa furan Baydhabo dadkani waa dad u dhigma daarood iyo dir iyo hawiye u dhigmaan iska ilaali hawiye ayay u dhigmaan tiradooda dir bay u dhigmaan daarooda ayay u dhigmaan afar magaalo afar maamul goboleed ayay koowaad ka yihiin iyaga la'aantood rajo dambe ma jiro warninka Soomaaliya madaxweyne ka noqonaya 4 sano waa inuu gacanta ku dhigaa aqliga digli iyo milifle haddaadan digli iyo milifle haysan madaxweyne ma noqonaysid
war haddaadan digil iyo milifle kalsooni ka haysan madaxweyne labaad ma noqonayo farmaajo ha ka cabsan sidaa darteed dowladdu waa ay ku xaraarugaysaa way isku dilaysaa dowladda si ay gacanta ugu dhigi lahayd intaa keliya maaha qorshaha labaad oo laga leeyahay waxay tahay waxaa la doonayaa in la yareeyo dhulka ay degaan digil iyo milifle waxaa la rabaa in la yareeyo maamul goboleedka weyn ee koonfur galbeed dowladdu dhul fidsiyay doonaysaa marka dowladda dhexe raalli ahaada dowladda dhexe dhul ballaarsiyay doonaysaa waxaa la yidhi afgooye muqdishoha lagu soo daro ninkii ahaa shariif sakiin wuu ogolaaday afgooye in muqdisho lagu soo daro dowladda dhexe dhul ballaarsiyay wadaa waxay rabtaa dhulkii koonfur galbeed haaf ka mid a in muqdisho la soo geliyo ninkii sheekh shariif sakiinna wuu ogolaaday laakiin nasiib darro 2 biloodaa u dhinayd ma saxiixi karin hadda waxaa la rabaa ninka imaanaya kow inuu saxiixo dhulka hareeraha muqdisho ku ah ee koonfur galbeed ka tirsan in la yiraahdo waxay ka mid yihiin magaalada muqdisho qorshaha labaad oo la leeyahay waxay tahay soo noqoshada qorshaha kale ku xiga waa in muqdisho la ballaariyaa rajo kale oo meesha yaalla ma laha war ninkani dacaayadaynta la dacaayadaynayo Soomaali badbaadin maaha war mukhtaar roobo dowladdu dan alla kama aha inay dacaayadayso ee dowladda dhexe waxay doonaysaa barnaamijka ah in mukhtaar roobo laga ilaaliyo horumarka uu u wado dhulka deegaankaasi waxaan rabaa marka inaan fasiro eray si kale loo turjumay oo Soomaalidu ay ku jahawareereen waxay dadku la yaabeen dowladdu waxay faragelinaysaa baydhabo eraygaas dadku way la yaabeen waxa la yiri sidee bay dowladii dalkeeda u faragelin kartaa maba dhici kartaa leeyahay sidee loo dhihi karaa dowladii inay dalkeeda intay farageliso la yiraahdo dowladdu dalkeeday faragelinaysa aqligaas ma shaqeynaya leeyahay laakiin anaa ku dhahayo wuu shaqeynaya anaa ku sheegayo wuu shaqeynaya dadka Soomaaliyeed uqdada lagu beeraya war Soomaalidu uqdad hadii lagu beero bariya soo dhaqay war aqliga Soomaaliyeed hadii maalin kasta uqdad lagu beero yaa bari soo mayraya war haddii maanta la yiraahdo koonfur galbeed annaga xoog ku haysana haddii maanta la yiraahdo hirshabeelle annaga xoog ku haysana haddii maanta la yiraahdo galmudug ma tasho karto inta kalena way tasho karaan Soomaaliya yaa waaye qofka dabaalka ah ee duurka loo diray war koonfur galbeed faragelinta maanta lagu hayo waa laba maado waxa la yiri ma doore kartiin qofka doonaysa dowladii hadday shacabkeeda diyaar u tahay maxay u dhageysan laadahay boqolaalka qof ee meel kasta ka soo hadlaya ee wada ooynaya ee doonaya qofka ay rabaan maxay dowladdu u aamin laadahay hadday dowladdu tahay dowlad Soomaali dhaxdhaxaad u ah maxay u dhageysan laadahay baaqa iyo waliba cabashada shacabka hadday cadaalad jirto miyuusan xaq u lahayn wiilka koonfur galbeed ka soo jeeda inuu cadaalad helo gabadha reer koonfur galbeed miyaysan xalaal diyaar u ahayn maxay tahay sababta sanka looga durayo dadka masaakiinta ee degan koonfur galbeed waxay tahay marka mabda la diidan yahay dowladdu ma aragto cabashada shacabka dowladdu ma aragto dhibaatada ay shacabku sheeganayaan dowladdu ma aragto baahida ay shacabka sheeganayaan dowladdu waxay aragtaa oo kaliya annaga maxaa noo dan ah bal eeg annaga maxaa noo dan ah ila waradyo ku dhow dowladda oo aan weydiiyo su'aal ku aadan maxaa lagu haystaa koonfur galbeed waxa la ii sheegay koonfur galbeed inay badbaado waxay la mid tahay nabad iyo nolol oo calankeedu dhacay bal eeg waxaad soo socdo waxa la yiri koonfur galbeed oo iyadu ismaamusho waxay la mid tahay baa lagu yiri calanka nabad iyo nolol oo dhacay marka kama yeelayno fadin waa lagu fadsiin waxaa doonto ahaw waxaa caawa la ii xaqiijiyey inay dowladdu naf iyo maalba u huri doonto sidii gacanka loogu soo celi lahaa koonfur galbeed marka weli lacagtiya socota Soomaaliyeed weli waxa socda iibsi weli xildhibaanadii la kala jijiidanaya laakiin arinta lafta gareen markuu iscasilay galabta 5tii galabnimo dadkoo dhan way isbedelay ummadii iyo siyaasadii waa isbedeshay waxa la yiri koonfur galbeed way isku duumeen waa qasab in koonfur galbeed la kala saaro waxay dantu kaliftay mukhtaar roobo qorshe labaad in loo dalaco waxaana idin bala qaadaya barnaamijyada kale inaan ku soo bandhigi doono mid ayaan u kala dhigi doona mid si ummadana ay wax uga faa'iideystaan aragtida dhabtaana loo ogaado mukhtaar roobo dacwadaha laga gudbiyay waxay suurtagal ka dhigi kartaa inuu mukhtaar gacan galo waxay qasab ka dhigi kartaa mukhtaar roobo ugu dambeyn inuu gacanta dowladda galo waxa mukhtaar roobo lala damacsan yahay in laga qabto ummadda koonfur galbeed waa sida dowladdu ay leedahay waxa la yiri marka hore waa ummadu dhuunta u galaalay meel uu dhaqaaqo iyo meel la geeyaa la leeyahay ninkani kalsooni ayuu shacabka ka helay ninkani lacag dollar ma ogolo war ninkan lama iibsan karo ninkan mabda nabad iyo nolol laga ma dhaadhici karo
ninkani lagama dhaadhici karo barnaamijka dhabta ah markaasaa la yidhi waa in loo marsiiyaa amisom dacwad iyo amarka maxkamadda maanta hadday ciidamada dowladda sharcigan fahma aadna u fahma dowladdu meesha aynan awood u lahayn amisom waxay mushaar ku qaadataa inay u fuliso amarka dowladda eegya amisom waxay amar u qabtaa inay fuliso amarka dowladda dowladdu markay tiraahdo annagu ma tigi karno baydhabo noo soo qabta mukhtaar roobo waa la soo qabanayaa waxa lagu badbaadi karaa waxay tahay inay dadku ogaadaan ciidamada baydhabana ay ka warqabaan ugu yaraan haddaynan amisom warqadaasi aynan fulin waxaa dhalan karta in mukhtaar roobo uu halkaa ku badbaadayo war dowladdu naf iyo maalay u huraysaa sidii mukhtaar looga celin lahaa waayahay waddada ay dowladdu ku socoto ma tahay waddo ay shacabku ku qanci karaan mabda'a dhabtaa ma yahay mabda'a loogu talagalay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan idin ballan qaadayaa barnaamijyadeedu inay wax badan bedeli doonaan maanta waxaan ku guuleystay xeer ilaalintii qaranka in barnaamijkii aan akhriyay xeer ilaalintii qaranka dadku ay waceen kun jeer ayaad mahadsantihiin u sheega in dukumiintiyada dowladda aynu heli karno u sheega inaynu baahi karayno wax alla wixii ku saabsan u sheega oo waca waxaad ku tiraadaan warqadda maxkamadda sare ay ku dalbanayso soo qabashada mukhtaar roobo amisom loo dhiibay ogaada fulintuna waxay qaadan kartaa ugu badnaan 5 maalin haddaynan waxba isbedelin waxyaabaha isbedeli doona waxa kamid ah kow waxa isbedeli doona ciidanka muqdisho laga waday ee baydhabo la geeyo la soo celinaya ciidanka muqdisho laga waday ee baydhabo la geeyo waa la soo celinaya waxa meeshii ka dhalan doona marka ciidamadaas marka la soo celiyo ciidamo koonfur galbeeda la sameyn doonaa amisom way ku adkaan kartaa marka laakiin damo ay sii joogaan 5 maalmood ay soo socotaan ilaa 5 maalmoodna waxay ku ekaan kartaa gabagabada iyadoo 2 maalin ama 3 maalin ka dhimantaa doorashada ama 5 maalin ka dhimantahay isbuuca doorashada ay ka dhimantahay ka hor ayaa mukhtaar in la soo afjaro la rabaa waddo kastaana loo maraya waddo kaste ayaa loo maraya xeer ilaalintii qaranka warqadda ay akhri rabto waa la ceeboobay waa la aamusay waxa la yiri xildhibaanadii aadan madoobe iyo raggii maxamed mursal iyo jawaari aba noo jeeday ilaahay baa laga baqo meesha waxa ka dhashay in dadku ay baraarugaan waa la laabto warqadii marka waxa la yiri amisom baan u marsiinayna maxkamada u baahan hala soo qabto mukhtaar roobo saasu gacan ugu jira marka waa la soo qabanayaa taa sharci diidaya ma laha hadda ku sheegaya mukhtaar roobo warqad maxkamadeed hadday timaado waa qasab inaad ka istaagto shaqada hadday warqadii maxkamadii soo dirto waxaa qasaba inaad ka istaagto shaqada maanta hadday warqad ku timaado adoo shaqaynaya sharci diidaya ma laha inaad ka istaagto shaqada waa ka istaagaysaa waa la stop garaynayaa waxay noqonaysaa mukhtaar roobo in markaa la yiraahdo maxkamadda ka soo garbax kaarka kaliya la rabana wax kala ma aha damo maxkamadii ay u yeerto waxa qasaba inuu maxkamadaas markuu tago markuu ka soo dhamaado doorashada gali kara haddaan lagu baraarugin marka koonfur galbeedna rajadeedu soo sii tahay qorshuhuna weli wuu isbedelaya waxaan rabaa marka inaad kala barataan afar maamul ayaa nabad iyo nolol dani ugu jirtaa inay gacanta ku dhigto haddaanan afartaasi maamul aanan villa Soomaaliya looga arrimin la geyn qofka amar qaata villa Soomaaliya dowladdu rajo ma laha afar kale inay soo noqoto waxa loo digdig leeyahay waa 4 sano soo socota waxa ummadda 4 sano soo socota ayaa loo ordayaa waxa maanta loo colaadinayo koonfur galbeed waa 4 sano soo socota waxa maanta loo dhibaataynayo maamulada aan ku soo sheegi doono waa 4 sano soo socota haddaanan gacanta lagu dhigin digri iyo milifle 4 sano lama soo noqonayo tirada xildhibaanada digri iyo milifle aawadeed ayaa dhuunta loogu jira ogaada Hirshabeelle oo aan laga xukumin villa Soomaaliya rajo ma laha dowladdu inay soo noqoto galmudug oo sideeda iskugu qasnaan dowladdu rajo ma laha inay soo noqoto haddii galmudug toosto nabadii nolol soo noqomayso farmaajana dibdaba loo maqlaynin qayrran dibdaba loo maqlayn hadday koonfur galbeed roobo doorato saasuu kugu daayay marka farmaajo ma soo noqonayo nabadii nolol maalintaasi u dhamaatay marka hadday Hirshabeelle dekad yeelato nabadii nolol waa ku diisay hadday Hirshabeelle airport yeelato nabadii nolol waa ku diisay haddii Hirshabeelle gacanta dowladda ka baxdo nabadii nolol waa ku diisay sida darteed waxa loo digdig leeyahay wax kala ma waxa la doonayo waa soo noqoshada 4 sano la helo waa adoo laga ooyisiyo 4 sano la helo waa adigoo ooya haddaadan ooynin 4 sano lama helayo haddaad qoslayso 4 sano sunay ka tahay ma la helayo sidoo kale maamulada rajada laga leeyahay
waa galmudug hirshabelle koonfur galbeed iyo jubbaland dowladana iga qora afartaas waa ku xaraarugay dowladda say majaraha ugu dhagan tahay marba dhinac ay u tuurayso dowladdu waqti kale maba haysaba meel kale ma aadayso dowladda waxay aadi doontaa oo keliya waa koonfur galbeed waa ilaahay kuma sama diiday hirshabelle kasoo gudub galmudug iyo jubbaland mabda'a nabad iyo nolol ayaa saas maalintaad badbaadayso waa maalintii la geeyo nacamleeyo saaxiibkay cabdiraxmaan yiriis oo kale maalintaas koonfur galbeed nabad ay helaysaa maalintaasi galmudug nabad helaysaa maalintaasi hirshabelle nabad helaysaa barta dagaalka nabad iyo nolol ay kula jirto maamuladaasi wax kale maaha nacayb qabiil maaha dictatornimo war ummadda yaan la qaldin dictatornimo maaha waxa waaye keliya aan soo noqdo maaha qabiil aan soo noqdaa la yidhaahdaa barnaamijkaas war yaan lagaa dhaadhicin oo maskaxda lagaa xadin oo lagu dhihin qabiil baa qabiil ku duulaya adduunyadu way ka gudubta taas waa soo noqonayaa waay roobow hadduu ka badbaado gacanta nabad iyo nolol haaf ka mida nabad iyo nolol waa ku daysa iga qora hadduu roobow madaxweyne noqdo nabad iyo nolol waxaa ku bilaabanaya duufaan siyaasadeeda ku bilaabanaysa hadday hirshabelle dekad hesho nabad iyo nolol dhibaata u bilaabanaya dhibaata lambar 1 hadday galmudug toostana waaba ka sii daranba hadday magaalada muqdisho nabad noqoto nabad iyo nolol soo noqmayso waa qasab marka dagaalku ma aha qabiil ee aan soo noqdaa la yiraahdaa ma soo noqon karaa haa okay ata waa noolaanaysaa muqdisho inuu soo noqdo madaxweynuhu waxay ku xiran tahay yiriso kaliya inuu ku sii joogo inuu soo noqdo madaxweynuhu waxay ku xiran tahay lafta gareen oo kale in la geeyo baydhabo inuu madaxweyne farmaajo soo laabto waxay ku xiran tahay nin kale in la geeyo kismaayo haddaanan intaas la samayn nabad iyo nolol dagaalaa ka go'an mana daalayaan habeenay soo jeedaan maalinay soo jeedaan arba ay kuu fadhiyaan meeshan oo waxaa la leeyahay arbacadaasi arbacadeeda kale ha la gaaro marka mabdu waa taas mar kalean ku celinayaa ma aha daandaansi qabiil soomaaliya qabiil way ka gudubtay danta hadda laga leeyahay baydhabo waa soo noqonayaa baa la yidhahdaa waxaa laga doonayaa marka qof kasta aragtiis caawa waxaan rabaa marka inaan tijaabiyo raalli ahaada taageeraha uu ku leeyahay mukhtaar robow social media nasiib wanaag 3 wasaaradood oo dowladda ka tirsan ayaa barnaamijka toos u dhageysanaysa wasaarad walba waxaa ka mid ah hal wasaarada idin sheegaa kaliya wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ka mid ah waxaan ugu talagalay caawa inaan dadka Soomaaliyeed taageeraha mukhtaar robow raadiyo fadlan haddaad taageersan tahay mukhtaar robow waxaan ka codsanayaa facebookga waxaan ku weydiin doonaa ma taageersan tahay robow maxaad ku taageersan tahay ma taageersan haddaad tiraahdo maxaa ku diiday intaasaan kaa rabaa marka qof kasta oo taageersan iyo qofkii mucaaradsanba sambuuradda commentskan eegi doonaa commentska social mediaha facebookga iyo channelka aftahan production labadaasaan qiimeynaya channelka youtube-ka aftahan production iyo facebookga robow haddaad taageersan tahay iyo haddaad mucaaradsan tahayba labadaasi comments ayaan eegi doonaa ummadda isticmaasha internetka robow ma taageersan yihiin qofka ugu horeeya telefonkaad iga soo wici karto ayaan ku siinayaa dulka dhagahaaga iyo dareemahaaga isii waxaad iga soo wici kartaa feebarka nambarkiisu yahay eber 276924 eber 17 waxaad iga soo wici kartaa eber 25629245 eber 17 mar saddexaadaan kugu celinaya waxaad iga soo wici kartaa feebarka nambarkiisu yahay eber 27629245 eber 17 haddaad taageersan tahay mukhtaar robow ku soo bandhig sambuuradda adigoo soo qoraya magaca mukhtaar robow oo kaliya aan eego sambuuradda markan cidda ugu fiican ayaan xuli doonaa mukhtaar robow mucaaradka iyo taageerayaasha telefonkaasna waad iga soo wici kartaan feebarka ma taageersan tahay hadalku ma badnaa doono waa taageersanahay waxaan ku taageersanahay intaas mahadsanid waa ma taageersani waxaan ku diidanahay arrintaas mahadsanid telefonku waa idiin furan yahay insha allah qofka ugu horeeya salaamu calaykum وعليكم السلام soo dhawow aragtidaada ku biiri waxaan raadinayaa taageerayaasha mukhtaar robow abu mansuur oo hadda doonaya inuu madaxweyne ka noqdo koonfur galbeed marka haddaad taageersan tahay iyo haddaad mucaaradsan tahayba soo dhawow ما تاجرسني maxaad ku diiday أنا وحن قديدي وحوها مختار ولا وجه maxaa la ogyahay anagu garan mayno adiga noo sheeg معناها هدان مختار رو أن تاجره محايد دي يعني أن تاجره شيء على ليه haye اسكو جوجو هو تمام تاجره marka adigu maxaad ku diiday oo fasir dadka ku daawanaya waxaad tiraahdaa waxaas iyo waxaasaan ku diiday sidaasaas ayuu qalad ku leeyahay
problemkan iyo qaskan maanta magaalada muqdisho ka jira ninka oo sababtiisa lahaa asigoo problemku dadka qaar kulama fahmayaan maxaad kala jeedaa problemka muqdisho haysta dadku ma yaqaanaan qaarkood xilligii shabaabku uu ahaa isaga oo magaalada muqdisho dagaalada ay ka wadeen yani maarta waa nin terrorist ah waa nin macnaha qof walba oo dambiile ah hadduu jaakada soo badasho oo dowlad oo macnaha maarta oo madaxweynenimo isku soo sharxo macnaheeda maxay tahay yani maarta haddii asiga oo dada aaminsan mukhtaar haddii laga dhigo in nabad ay noqonayso nabad haddii noqonayso sheekh shariif oo maxaakiimta ahay waxaa laga dhigay madaxweyne shabaabna waxba ka qaadi waayo ma fahamti isagana shabaab nin wax ka qaadi kara ma ahan maadada kale mar hore nin dambiile ah waaye oo la og yahay adduunyada dhan ay wada og tahay ma xuma dunidu way cafisay mukhtaar robow oo waa laga tirtiray liiska argagixisanimada sidoo kale ma aha ninkii ugu horeeya oo tala qabta oo argagixisada ka mid ah saraakiil markii hore sirdoonka shabaab ka mid ah ayaa hadda dowladda federaalka ku jira sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxaa hogaaminaya sakariya oo ahaan jiray sirdoonka al-shabaab marka sakariya hadduuba dowladda ka tirsan yahay mukhtaar robow qodobkee celinaya qodobka celinaya waxay tahay macnaha horta mukhtaar waxaa tiri liiska argagixisada waa laga tirtiray laakiin liiska ilaahay ma laga tirtirin ma fahamta liiska ilaahay haye ma laga tirtirin kow maadada kale cafis ummadda soomaaliyeedna cafis ma weydiisan haddii waxaan rabaa inaan ku saxo mukhtaar robow muqdisho ayuu cafis ku weydiistay maqal iyo muuqaal hadda internetkaad ka heli kartaa isaga oo dadka u sheegaya ka gudub marka ii wad sheekada marka cafis oo macnaha cadcadooy hana weydiisto mukhtaar agteena wuxuu ka yahay macnaha xarakada al-shabaab uu agteena ka yahay ma fahamta marka lama dooran karaa leedahay maantana maya hadda fiiri nin walba oo macnaha ururkiisa khayaano adigna makuu daahayo guriga hadda macnaha shalay dadkii uu dhahay murtadiin waaye gaalo waaye halal dagaalamo dadkaas ayagoo nool yaalii keenin ma fahamta sin ku taageeraa ilaahan kugu dhaariyo oo ninka koow oo in dad bini aadan la qalo oo bilaaba isagoo ah nin masaakiin ah reer beedhawaani ah oo maaragtaa eri oo 3 xabo oo amxaar ay ka xoogtay waxaa la dhahay ninkan macnaha maaragtaa erigii amxaar uu ka gadanayay waa la gowracay mintii aan af leen xataa lagu gowracay marka hadda nin noocaas ahaa hadda aniga hadduu jubad iyo garavaati iyo jaaka uu soo gishto sin ku taageeraa ma ilaahay ma laga baqaay miya aad iyo aad waa mahadsan tahay sida quruxda badan aad fikirkaaga noola wadaagtay dhegeystiyi ugu horreeyay wuxuu yidhi mukhtaar robow in la doorto waa diiday dhegeystahaasi wuxuuna ku sheegay inuu yahay gacan ku dhigle aanan loo baahnayn waqtigan in la doorto waa mahadsan tahay caawa waxaan raadinayaa taageerayaasha mukhtaar robow oo keliya iyo dadka mucaaradsan waxaan baadigoobayaa inuu kalsooni ka haysto shacabka internetka isticmaala ma ka haystaa mukhtaar robow shacabka isticmaala internetka barnaamijkayga dadka dhegaysta waxay xor u yihiin inay mucaaradi karaan isla markaana ay taageeri karaan waa xor qof kastoo dhegaysanaya laakiin aan eego qaybta committeeska yaa haysta waxaan eegayaa tirada committeeska ila fiiriya aan ka bilaabo qaybta facebook qofka ugu horeeya wuxuu yidhi robow kii labaad wuxuu yidhi robow guul kii saddexaad wuxuu yidhi robow kii afraad wuxuu yidhi robow haye kii shanaad wuxuu yidhi guul robow kii lixaad wuxuu yidhi guul robow kii toddobaad robow ayuu yidhi kii sideedaad robow qofkii sagaalaad robow haye waxaa ii dhiman 3 keliya qofkii kale wuxuu yidhi robow 2 ii dhiman haye robow 1 qofaa ii dhiman guul robow ummadii oo dhan waa kaa dhinacii committeeska taageerayaasha robow ayaa haysta waxaan leeyahay taageerayaasha robow weli samuuradda waan sii eegi doonaa hadduu alla idmo qofka labaad asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawow aragtidaada ku biiri robow ma taageersantaa mase waad ka soo horjeedaa روبو boqolkiiba boqol aan taageersan maxaad ku taageertay waxaan ku taageeray nin halyeey ah oo diinta islaamkana ka saaya koonfur galbeedna u dhashay oo aad u aaminsanahay inuu wax badan wadankaas ka qaban doono
dadka qaar waxay leeyihiin adiga ka fikrad duwan in uu Mukhtaar Robow yahay nin argagixiye ah oo aanan u qalmin inuu hogaamiyo dal maxaad adigu marka ku taageeraysaa argagixiso kuwii hore dhan waa ku jireen ninka sirdoonka haysto oo Zakari Yaasiin la dhahay sirdoonka Soomaali hadda haysto oo caalamka dhan la shaqeeyo argagixisada al-shabaab u ahaa hotel shaamo markii la qarxinay dadkii mas'uulka ka ah ku jira asaga naftirkiisa Mukhtaar wuxuu u galay wadankaas koonfur galbeed inuu wax u qabto diinta islaamka uu ku galay markii hore maxkamadahu ku biiray waa arkay dhulkaas oo dadka lagu baabi'inayo inuu u heeliyo shacabkiisu u galayba markay qalad inay ku socdaan afkayna waa ka soo baxay ma fahantay shan meel fadhiyay keligiisa isdifaacay tan oo waxaan kuu sheegaa hadda dhahayaan dawladda uu isu soo dhiibay dawladda iyagaa wadahadal la furay iyaga wadahadal uu ku imaaday diyaarad UN-ka uu ku imaaday dawladda wadahadal la furay United Nations-kana ayagaa ka qaaday dawladda America Mareykankaan deganahay aniga hadda Mareykanka ayagaa ka qaaday kiiskaas oo uu ku jiray markay arkeen inuu dambi lahayn marka waxay u diidayaan wadankaas horumarkiisa ay diidayaan ma fahantin nimankaas ويحي أنا دوما سنتعي قفك كحية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الصدو على سنتها مسوا تاجر سنتها مختار روبو وتاجر سنة بقول كيف بقول وحرنا ومدى الصوماليين إن هرت حجاير إيسان اسكود دارين قفك الدم بيقولي هاي قفك على محكمة دي الصومالي الدولة دي مركز على إلى ما أنتم وحنا هاي دورنين oo hogaamiye kooxeedya ama shabaab ha noqdaan ama maxaakiimta ha noqdaan inay soo mareen in hogaamiye kooxeedyadii shalay maanta ay kamid yihiin aqalka sare in dawladda ay ku jiraan in dadkii maxaakiimta ugu sareeyay ay soo qabteen xilalka ugu sareeyay dalka Soomaaliya marka tan Robow ma aqaani waxa asaga kaliya ka dhigay tuka cambaar leh Robowna waxa ogsoonahay intii uu ku jiray shabaab in dadkiisa uu aad ugu gargaaray waxa lagu xasuustay kala markii uu qabtay konton isugu jirtay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano digri miriflow baydhabo ku qabtay uu sii daayay maaragtay muqdisho uu soo diray waxa ogsoonahay markii airportkii maaragtay waajid la qabtay dhalinyaradii meesha ka shaqeynaysa in uu diyaarad saare iyo hay'adahoodii la shaqeynaysa uu sii daayay hadii ummadda Soomaaliyeed ay maaragtay rabaan inay dhanka wanaag wax ka fiiriyaan Sheekh Ali wajiis oo wada naqaano oo dawladda maaragtay saaxiibkeed ah uu ka hadlay Robow iyo maaragtay fikirka uu aaminsan yahay xilligii maxaakiimta ama shabaab ay bilaabatay Robow uu joogay magaalada Muqdisho waxa la gaaray ama waxa la arkay heer hogaamiye kooxeedyadii iga raali ah maaragtay beelaha hawiye u dhashay ku sugnaa magaalada Muqdisho ku sugnaa in ay ku aamin waayaan hubkooda sida Sheekh Shariif iyo ragii kale ay ku aaminaan Robow markii Etoobiyaanka ay soo galeen dib ugu celiyay maaragtay amaanadoodii horta Robow waa nin noocaas Robow waxa lagu xasuustaa kala markii godane uu rabay Etoobiyaanka markii ay ka baxayeen Muqdisho ay u socdeen wadankooda in shabeellaha hoose lagu dagaalamo Robowna uu ka hor yimaado uu yiri dadkayga laguma dhex dagaalayo marka waxaan kala ogsoonahay Robow in xagjirnimada xataa maaragtay raggan qaarkood ay qaateen asaga uusan ku jirin shabaab uu ahaa laakiin waxyaabo badan hadda dastuurka wadanka lagu dhaqmo kale uu maaragtay ka soo horjeedo marka anigu waxaan aaminsanahay Robow maanta xaaladda koonfur galbeed Soomaaliya ay ku sugan tahay inuu yahay ninka kaliya ee samata bixin karo hadaydi barnaamijkaaga dhowr meel ka taabatay waa ku jiray waa maaragtay waan dhageysanayay waxa socda dana gaar ah meeshan doorashada bulwaan uma ahan wax Robow kaliya lagu rabo waxa waay dhul balaarsi baa socda sida sheegtay hadaydi waxa ka dhawaajisay kaliya afgoya ka dhawaajisay waxa jiri doonta hadii lafta gareen uu koro koonfur galbeed Soomaaliya in gobolka Shabeellaha hoose dhan la soo goyn doono oo lagu dari doono magaalada Muqdisho lafta gareen galabta shanta galabnimo ayuu is casilay lafta gareen wuxuu is casilay shanta galabnimo ka socdo adii marka Robow waxa la diidayaa maaragtay in uu hore u socdo ama maaragtay gobolkan la helo nabad waarta dawladda maanta hadii dawladda Soomaaliyeed ay dawlad Soomaaliyeed oo run ah ay tahay dawlad Soomaaliyeed oo dib u heshiisiin iyo dalkan inay nabad ka dhaliso loo soo doortay maanta waxay haysataa maaragtay Cabdullaahi waxay haysataa shacab iyo hogaamiye isku xiran waxay haysataa hogaamiye dadkiisii 80% ay rabaan hogaamiye waxay haysataa maanta reer koonfur galbeed Soomaaliya waxay marayaan in xildhibaankoodii ay wacaan ay dhahaan xildhibaane codkaaga aniga iga gado fabisa haye codkaaga intii nabad iyo nolol ka gadan lahayd aniga iga gado Robow ii dooro markii meesha la marayo dawladdu waxa rabaa inay fahanto
waagii dadkan wax loo meerin jiray ama maaragtay awood la isku muquunin jiray waa lasoo dhaafay dadkan maanta waxay rabaan inay doortaan qofkii ayaga ay masiirkooda ku aamini karaan ayna isleeyihiin wuu idin hogaamin karaa cabdullaahi waxa annaga aan soo ogaanay in Robow intii uusan isa soo sharixin uu dowladda laftirkeeda weydiistay garab laakiin ay meelo badan sida hadda soo naqashada 2020 oo kale ay isku fahmi waayeen Robow ma noqon doono sidii Shariif oo kale Robow iyo dowladda waxa la isku fahmi laayahay waxa waaye waa idinla shaqeynaa idinma shaqeynaayo wixii xaq ay igu leeyihiin baa idin siinaya wixii xaq ay idinku leeyahayna waa idinka qaadanaya dowladda inta kaliya diidantaa intaan fahmay waa mahadsantahay weli waxaad la socotaan barnaamijkii dabagalka wararka caawa waxaan raadinayaa kalsooni ma ka haystaa dhinaca internetka Mukhtaar Robow Abu Mansuur ma taageersan yihiin dadka isticmaala dhinaca internetka waxaad iga soo wici kartaa feebarka lambarkiisu yahay eber 27 eber 17 qofka ku xiga salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawow walaal aragtidaada ku biiri haddaad taageersan tahay haddaad mucaarasan tahay ba soo dhawow waxaan ku weydiin doonaa ma taageersan tahay Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo doonaya inuu madaxweyne ka noqdo koonfur galbeed ما شاء الله عبد الله بلوان iyo dhamaan dhageystayaasha qadka ku wada jiro aad idin salaamaya salaamka ku salaamaya haye marka ugu horeysa waxaan dhihi lahay doorashada koonfur galbeed xor hala siiyo maadaama dowladda federaal ay tahay qofkii rabaan ayaga ha doortaano waayahay ma taageersantaa Mukhtaar Robow adiga ha Mukhtaar Robow waa taageersanahay boqolkiiba boqol taageersanahay waayo Mukhtaar Robow shalay madaxweyne farmaajo ayuu agta ka joogay oo dhiig dhinaciisa ka miiray ma ogtaa marka wuxuu yahay waa fiican yahay marka alif waxmaal iyo alif waxba leeyahay isku ma keeni karaayo wax aqliga bini'aadamka diidayo waa shalay madaxweyne farmaajo la joogay maanta waa la soo xirayaa ma dhihi karaan sababta loo xirayna meesha ma ka muuqato ma fahad waayahay dadka qaar waxay leeyihiin ninkani uma qalmo inuu madaxweyne noqdo sababo la xiriira inuu ahaan jiray ururkii argagixisada xubin ka mid ah afayeenna uu ahaa ma aaminsan tahay taa okay taasi micnaha waxaa ka jawaabaya dadka deegaanku ka soo jeeda ayaa ka jawaabaya ayagii u taala soo maaha haye ayaga haddii rama way dooranaya haddii rama dooran laakiin doorashada xor ha laga dhigo ma ahan amisom micnaha soo xirayso ma ahan micnaha waa la soo xirayaa waa qalab marka dowladdu waxaa dhihi lahaa iyadoo danihiina iyo hoolihiina qabsada muqdisho ayaa joogtiin 3 sano idinku sii socoto ammaan ma ka jiro isbitaal caafimaad oo qof maanta dhiig baxayso oo lacag la'aan lagu daaweynayo ma jiro iskool lacag la'aan ma jiro miisaaniyad sax ma jirto marka hooshii loo diro dowladda ayay gabtaa marka koonfur galbeed inay ugu mashquuliyaan ma aha waa mahadsan tahay weli waxaad la socotaan barnaamijkii dabagalka waxaan raadinayaa Mukhtaar Robow taageero ma ku leeyahay dhinaca internetka waxaan hayaa inta badan waxa sii kordhaya taageerayaasha soo wacaya oo taageersan Mukhtaar Robow salaamu calaykum عليكم السلام عبد الله واكو سلام adiga barnaamijkaaga aad baan i taageersana sidoo kale soo dhawow Mukhtaar Robow ma taageersantaa ma soo mucaarasan tahay waa taageersana si weyn maxaad ku taageertay waxaan ku taageeray Mukhtaar Robow maxaa laga rabaa boqol oo kii taliyaha nabad sugidda ah oo shabaab ah hogaaminaya xamar oo qaraxyada ka fulinayo Fahad Yaasiin oo ka daran baa joogo dad ka daran baa jooga maxaa Mukhtaar Robow laga rabaa Mukhtaar Robow waa ninkii Muqdisho ay aanta maxaakiimta nabad ka dhigay oo wiilkiisa 10 jira ku inuu dagaalamo qori u dhiibay koonfur galbeedna haddii akhri leeyihiin Mukhtaar Robow waa ninka kaliya oo bixin kara oo goboladooda iyo shabaabka sifeyn kara waayahay laakiin adigu markaad leedahay waan taageerayaa dadka qaar oo hadda ku daawanaya kuna daawan doona waxay leeyihiin gabadhu miyaysan la socon inuu ninkani ka mid ahaan jiray ururkii argagixisada al-shabaab maxaad ku taageertay adigoo taa og farmaajo hadda ka mid oo naxasuuqaya muqdisho waxa suuqaye maxaa laga rabaa Mukhtaar Robow qofka bulaadka dambi waa galaa bigana Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula xisaabtami kara waana ka toobad keeni kara laakiin kuwa hadda dhiiga dadka daadinaya oo bahallada oo hadda taagan ma wax laga qabtay Mukhtaar Robow ka toobad keena markii horena asaga mowqifkiisa wuxuu wata saliima waa ninka muqdisho nabad ka dhigay buu ahaa oo wiilkiisa dhiibay oo yiri wiilkay waa dagaalamaya shabaabkana ku mowqif maayna soo kii meesha ka istaagay laakiin dadkan muqdisho jooga qayre ee farmaajo shabaab ah muqdisho noo joogay oo markiiba 1 milyan qarxinaya oo qarxina noo soo dhiibayay ma la qabta ayaga maxkamadda la tigsaday haye iwad sheekada haye
marka caaw hadallo badan baa taabata waxaa tiri cabdiraxmaan cabdishakuur baa xamar ka haajira cabdiraxmaan cabdishakuur qabiilka ugu tunka weyn buu ka dhashay hawiye kuma dhihin axmar uu ka haajiray barnaamijkaygu waxaan ku sheegay warbaahinada qaar ayaa hadalka u dhigay wuu ka haajiray dowladdaana ku tiri ka bax ka soco hadalka ii wad ما دي كان دولة كبح عبد الرحمن عبد الشكور وحد دي دجال كمقدشو دي ده هدو عبد الرحمن عبد الشكور حمر كده دجال لها ذاتك بابا هي وهوية فرماتشر إنه كده إنه هوية بابيو ربعسهم وحن هوية إنه بابيو ربي عبد الرحمن يذاتك إنه ويلات تشتواجد عبد الرحمن هوية وده أنت وتجنسين لو سوق قلبي هذا أنا وتيك راي فرماتشر عبد الرحمن عبد الشكور كركس تحسها كتا ما أنت اللي سكتشو جاي waayahay aad u mahadsantahay weli barnaamijkii aad dhegaysanayso waa dabagalka wararka tirada dadka taageersan Mukhtaar Robow ee dhinaca internetka ayaan raadinaya caawa dadko idilba waa wada Robow samburadii Robow isku bedeshay telefoonkii Robow isku bedelay waxaan la ahay weli dadka mucaarasan Robow waa la ahay Facebook waa Robow like taxta Robow isku bedeshay waxaad arkaysaa dad wada sawirada Robow u saaran yahay iyo like saaray waxaan arkayaa waxa wada qoslaya dad Robow u wada saaran yahay waxaa telefoonka soo wacaya dad Robow u wada saaran yahay waxaan sugayaa marka telefoonka ka xiga iyo dhageystaha ku jira assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow ma taageersantahay Robow mase waad ka soo horjeedaa Mukhtaar Robow ayaan taageerayaasha iyo mucaaradka kala eegaya هاي أدي أد روبلو أو سنة نكاسيتو شباب وباحي الشباب كسبان كهاي والسكرية هوتيل شامبو نيكي كدم بي سكرية والشباب باسيل الصومالي فريو مركزين كوفر قلبي بحا وشيغايا حريستا مختار روبلو راعة قول وسوهيتو وانين أد وأقلب بدن waa maasantahay waa nin aad u aqli badan taageera ayay tiri gabadhaasi waxaana ku taageersanahay tiri maadaama sakriyo oo ka tirsanaa dadkii qaraxii Shamow maadaama uu jooga ayay tiri maxaa lagu diidayaa Mukhtaar Robow waa maasantahay wali waxaan eegayaa samburadda committeeska taageerayaasha Robow ma ku jira mase waa laga badiyay 10 qof ayaan akhrin doonaa 10 qof ayaan akhrin doonaa diyaar garooba 10 qof ayaan akhrin doonaa taageerayaasha Robow iyo mucaaradka ayaan eegayaa qoraalka committeeska horta waan arkaa like wada Robow ay noqotay waxaan eegayaa marka committeeska telefoonku waa wada Robow committeeskan eegayaa qofka ugu horeeya koow Mukhtaar Robow labo Mukhtaar Robow saddex Mukhtaar Robow afar Mukhtaar Robow hal qof wuxuu yiri waa tuug lix Mukhtaar Robow تضرب مختار روبو سديد مختار روبو مختار روبو وتوك لبو مختار روبو وتوك سدح مختار روبو قول أفر وسقال رالي هذا حلقف كليا إيدمن روبو طبعا أوكي لبيو طبعا قفض وحي تري وتوك طبعا قفض وحي تري مختار روبو قول مركو واحد مدولي ويهيستان من عيسى بوردا وعن كل أبريا تلفونك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرسلتها بقول كيف بقول صدق مختار روبو متاجر سنتا بس وقت كسور جدا والله لا مختار روبو متاجر هاي ما حد كنت يدين مختار روبو وحا وهارين الشباب فكر يرأي الشباب هاي فكرته كاني ومدى الصومالية ودح كاني إلا هدر wiilal badan baa ku dhintay ataa gobolku asaga soo jeedaa tahay haye gobolku asaga soo jeedo kumanaan qof waa asaga ideologigiisa uu ka dhaadhiciyay ayaa ku dhimatay Soomaali badanna kalena ilaa hadeer way la daalaa dhibkuwaas keenay faantay waa gartay haye qof marka intaas oo dhiba keenay oo hada ilaa hadda aan laga hayn eri dhawa oo uu leeyahay waan qaldanaa ragaas baan ku biiray waana qaldanaa halaga raala Soomaali Maxamed yahay cafiyo hal clip aan laga hayn oo kaliya u dhahay ragaan isdagaaleen oo gees u baxay kaliya uu sheegay ilaa hadda muusa sheegin sababta rasmiga ah oo la baxay shabaab ninkaas marka wali adigu waxaad leedahay yaan loo dhiibin talo wali waa al-shabaab oo wali in loo dhiibo talo ma qurux badna in loo dhiibo ma ahan waa inuu Soomaali cafis weydiistaa أنا أقول هذا dad badan oo aniga la dhasho laayay dad badan buu xukun ku xukumay aan xukunayn dad badan buu gubay ma fahanti haye ani ahaan waan afin karaa waan dareemi karaa culays baa saaran laakiin ummadii kale ma afin karaa boqolaal
dad baa hadda agoomaa joogo asaga ka dambeeyey inay dhintaan qaarkood uu qarxiyey qaarkood ideology ilaa hadda uu jiraa shabaab meel kastay ka jirtaa jabooyinkii dhan bay haystaan dhul dhan bay haystaan shabaab marka ilaa hadda waxaa isleeyahay ninkaas in loo dhiibo waa qalad in loo dhiibana ma aha midda kale inanta hadda hadlaysay dheysay farmaajihii khayra wado dhib ka wada xamar walaale taas waxaa la yidhi la in shakartum la aziidanakum la in kafartum min cadaabi la shadiid ilaahay hadda wuxuuna siiyey in adduunkii dhan uuna fiirinayo inaan horumarayno in meel dheer la tiigsanayo marka haddii la dhaho farmaajo khayra dhib nagu wada ayaga maxkamadda lasoo saaro that means waa nimcada ilaahay uuna siiyo kuma shuurnayno waa mahadsan tahay sida quruxda badan aad fikirkaaga noola wadaagtay qofka ku xiga asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhowo walaal ma taageersantaha mase waa mucaarsantaha mukhtaar robow وأنا تاجرسنا بقولك وبقول. maxaad ku taageertay waxaan ku taageeray dadnimadiisa haye markaan ka soo qaaday wiilka hadda hadlaayay oo lahaa adduunka dhan baana taageersan adduunka dhan farmaajo iyo khayr ka horeyna taageersanaayeen farmaajo iyo khayrada dawlad dhisan dadkii dhisay labada gacmood inay labada dhinac ka istaagan loogu dhiibay ayaa loo dhiibay waxaana laga dhaxlay baraka iyo dil iyo dad inay duugaan oo taleefanadooda ay ka dhex qaylinayaan waa gartay laakiin mukhtaar robow waan ku soo noqonaynaa waxaad tiri waan taageersanahay dadka qaar waxay leeyihin mukhtaar robow weli mabdicii al-shabaab kama uusan noqon waxaana la leeyahay waa nin al-shabaab ma hogaami karo dhul soomaaliyeed dowladnimadana waa loo diiday sababo la xiriira ururka al-shabaab maxay kula tahay walaa uu qalday ra'yigaas sababta keenaysa mataqaanaa ninka la yidhaahdo robow xasan sheekh daahir waa dad diinta ilaahay yaqaano micnaha dad gaala ayaa arrintooda rogay 6 bilood ayay wadanka qabteen oo lagu qabtay maxaa tirahdaa islaamnimo dadkii guryaha kala haystay Soomaali markay berbereyso gaalo waxay tir 20 sano markii maxaa tirahdaa dadkan si dhameynayeen 6 bilood kaliya isbedel dhacay sidee loogu shubaa maxaa tirahdaa ciid iska dhaaf adiga Soomaaliya Ingiriiskan aan joogno ayay waxay sameynayeen baanada inay galaan dharka iska bixiyaan ay qarxiyaan ee waxay dhaayeen islaam ah qarxiyay marka taadaradeed الروبو وحو قال ما ترى إنه إسلام كدافعه ما ترى أنتو كل ما تنوى إن إلهي وقلت له قالي وما دفع دوك دعوة كل ما رأيان ما قرأتي مركا روبو سكدع فميت كان هذا فهد يوحل وشي قال ما خان مرحتوي إذا فديو سردون كوها سيدوكو فدينيك هذا ترعيدها أنا دين تنو آخرنا هاي دين تما بركة سيدو ربع وآخر سنة ين تاسوا كدالنا عدر نيك هذا روبو ما بتحفظ يصير صوماليين wuxuu joogaa gobolkiisii kan caawa bila Soomaaliya yani iga soo dirinay kunka qofood ay ku dhimatay 14 Oktoobar ay ku dhimatay maalin walba dadka Soomaaliyeed lagu bahdilayo lagu dilayo ya farmaasha iyo khayra u sheega khayr ay noo keenin mid maalinta yimaadeen wadanka hoog iyo halaag u keeneen taa waxa ka dheer mataqaana war maalinta yimaadeen koob waxay ka bilaabeen dadka Muqdisho joog hubkiina ka qaadan ay diraan sababta ay diradaan bay rabeen inay dadka xukun ku ay qabsadaan qayb iyo xukun وما سنتاي هذا دوما سنتاي مختار روبو كلية أيان رادين يا عاوة دتك تاجر سن يا دتك معارسن السلام عليكم قفك كحجة هلو السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة شو دوا وركتي هذا كبيري مختار روبو أو منصور متاجر سنتاي مسوا معارض سنتاي والله تاجر سنة هاي محاتكو تاجرتين waxaan ku taageeray horta waxaa jira hal dokumento oo la yiraahdo dastuur waa gartay dastuurkaas wuxuu xaq u siinayaa qof walba oo Soomaaliya inuu wax doorto lana doorto waa gartay Mukhtaar Robow Ingiriis maaha Faransiisna maaha Amerikaanna maaha haye باسبور أجنبي ما وطو باسبور صومالي وطا وكودني سنيا كون ولا حسك شيء وعاو إذا جيسنا هي أمين إذا جيسن دونا وياهي هي هذا كليتو وكسو جيلا كفر قلبي كان هي وحو حق ليه هاي
ummadiisa inuu hogaamiyo laakiin waxa la leeyahay ninkani waa argagixiye shabaab ayuu ka tirsanaa lama aamini karo weli aad uma toobad keenin weli mabdiyu aaminsan yahay taa maxaad ku diiday adigu taa waxaan ku diiday qayri iyo farmaajoba argagixisayaal waaye markay maalin kasta iyagoo dawlad sheeganaya hoostoodana ku dilaan marka ninka argagixisada ka yimid iyo kan argagixisada aan kaa celi karin waa suukaa mid teeda kaleeto nimankan fadhiya sida Fahad Yaasiin iyo ninkan waxay leeyihiin ina Ismaaciil leeyahay Zakariya iyo iyagu yaa u qilday goormay Soomaaliya cafisay goormay Soomaaliya waa cafinay oo dawladda ka mid noqon karaan bas bahashu waa qabiil bahashu ma qabiil ba mase dana gaar oo kaleeto oo laga leeyahay jira iyadoo oo maxay tahay lagu danaysanayo markaad leedahay bahashu ma qabiil ba ma waxaad kala jeedaa shabaabka qaar ka mid ah qabiil dartii baa loo daboolaya waxa ka mid ah waliba Zakariya ka mid ah loo daboolaya yaa daboolaya Zakariya loo daboolaya sirta wadanka oo dhan gacanta ku haya roobo sirta gacanta ku haya ii sheeg koonfur galbeed ka noqonaa madaxweyne yaa Zakariya daboolaya taasaad ka booday yaa daboolaya Zakariya taas ii sheeg farmaajo daboolay ii wad sheekada marka haye farmaajo daboolay waa isku reer midna waa looma ooyaan midna waa lama taabtaan sheeko kale too jirta yaa looma ooyaan yaad kala jeedaa roobo yaa laga dhigaya faadi baakii sheeg Zakariya waa loo ooyaan waa lama taabtaan haye ii wad sheekada marka haye waxaan ku sheegayaa ummadiisa rabta ummadu xukumi lahaa oo ka raaliya u haysta roobo registration ummadda ay samaysatay shuruudihii doorashadan waa ka soo baxay waana tartamaya waa xodanaya xildhibaanada cid ugu aabiyeelaya ma jirto labay mid noqonaysaa balwaano haddaan roobow la daynin fikirka waan sii joogi doonaa 30 sano soo socdo waxay dhali doontaa inaan 3 bilood la gaarin ay dhali doontaa tii dhashay ka leefaysa qof u cafinayo oo u istaajinayo ma jirto bakay waxa waa isnay dawladan waan soo dhaweynay waa u sacaba tubnay qabsadaan niri na hogaamiye anagoo diyaara oo dawladnimo u bisil ayna heleen waynaga faa'iideysan waayeen maadaama shalayta dhibka anaga aan ka hadlaynay ama dagaal sokay ha ahaado ama propaganda suuq la suuq kala ha ahaato anagoo intaas ka soo badbaadnay oo diyaara oo bisil oo miiska u saaran ay noo yimaadeen waxay yiraahdeen idinma cuni karna waa idin ciideynayna nama cuni karaan namana ciideyn karaan waxay nagu samayn karaan abuurta ma jirto Soomaaliya waa aqlilay waa soo wada jeedaan casri jaahiliga kuma jiraan qarniga 21aad la jooga dadku waxbay wada barteen waxbay wada akhriyaan waxbay wada arkaan dawladda mid aan kula talin lahaa mid aan kula talin hadday ka qabaan 40 sano ee dan ku qabaan 40 sano hadda oo la doorto hadday dan ku qabaan anagoo leh maana qomidla maana dhamidle ay ku joogayaan laakiin hawo dambeeto iyo gaala ii hiilinay amisoon waraaqo u geynay amisoon wadanka saxiixay ku soo galeen saxiixaas wuxuu ku gaaray haddaanan madaxweyne ka dhigneen waxa uu saxiixeen farmaajo waa ognay Buffalo New York wuxuu deganaa guryaha maxay tahay milishii biil oo free lagu dago dadka masaakiinta la siiyo bal xaal sii jiray ayro qaalin jiray maanta billionaire waay maxay tahay never force oo guru wuxuu ka gatay Castella iconiska meesha degiyo markuu noo imaanay jeebta ruqo xaqu ka keen hadoosan dhicin way u diiday la xisaabtamo way u leeyihiin maxay tahay musuqmaasuqa la dagaalamayna way haddana sharciga uusan u dhisnayn wali way haddana dad loo xiray xabs caaw u jira war Soomaalinimada aawe war wadaniyada aawe war bini'aadanimada aawe goorma isu imaanay shanta Soomaal ina xoreynana ka sugay laakiin intii bislay in ceerinka intii joogtay ila ayayuubo oo la ceeriyo oo la caburi midaan ku sheegaya bini'aadan maskaxdiisa iska qaf balwan mukulaad inta ma arkayso oo xoolaha oo kol balaadka
haddii gurtaa ku xirto oo dariishadana ka xirto albaabna ka xirto ul aad u qaadato oo aad garaacdo qofka ugu horeyso adigu albaab ma dayanayso dariishadna ma dayanayso kacdoonkeena soconaya waa bilaabayna askarta ha keensado amisom ha waco ma joogayaan anaga awal waxaan islahayn adkaysta 4 sano ha dhamaystaan laakiin rajadooda hadday tahay kan dil kan dibindaabiye kanayta madaxa ka go si aa u joogo maxamed siyaad bare maalinkii 91 la bixinay ya wuxuu haystay mid vinta uno haystay wuxuu haystay dabaabaad wuxuu haystay ciidan wuu dhisnaa maanta wuxuu haysta farmaajo ma jirto waa ognahay ciidanka amisom lagu wareejin lahaa marka ay ka baxayaan wadanka uma diyaarsana you know dhibi rabaa marka amisom sii joogaysa no way ma joogayso asna ma joogay haddii dadka soomaali ku shaqeyn waayo roobowna waa la jirnaa roob noo da-ay waaye cidda sacabada ma saari karto cirka roobka da-ay waaye ninkii ciil qabal cadaabta ha galo roobow waa jooga koonfur galbeed oo ka talina hadalkooda kuma shaqeynay wuu shaqeynaa laakiin uma shaqeynay waa mahadsantahay aad aad u mahadsantahay qofka ku xiga asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal soo dhawow ma taageersan tahay mukhtaar roobow mase waad ka soo horjeedaa waan taageersanahay mukhtaar roobow haye maxaad ku taageertay waxaan ku taageeray dadkiisa rabo shacabkiisa u taagan waa nin adag oo go'aankiisa qaadan karo nabad iyo nololna marnaba aan ku shaqaysan karin sida dadka qaar waayahay marka aad leedahay dadka taageersan waxay dawladdu leedahay ninku waa argagixiye weli mabdii shabaab ku wataa marka nin al-shabaab ka tirsan siduu magaalo ku hogaaminaya horta al-shabaab hal iyo laba ma ahan kuwa joogana waa al-shabaab hadda mukhtaar roobow al-shabaab yahay waxbana isma dhaabaan farmaajona wuxuu uu diidayo wuxuu og yahay shalay toole asaa soo dhaweeyey mukhtaar roobow iyo sheeg muxuu ahaa iyo farmaajona wuxuu asaga u diidayo waa og yahay farmaajo mukhtaar roobow waxa uu yahay iyo wuxuu uu ku taagan yahay iyo muuqafkiisa hadduu al-shabaab yahay shalay muxuu usoo dhaweeyey asaa dalka madaxweyne ka ahaa muxuu xiri waayey muxuu maxkamadeen waayey muxuu dacwo ugu soo oogi waayey maanta markuu isku soo sharaxay inuu dadkiisa iyo danihiisa raacdo muu leeyahay mukhtaar roobow waa al-shabaab waayahay marka adigu waxaad leedahay hadduu xitaa shabaab yahay codkaan siinaynaa mukhtaar roobow al-shabaab ma ahan because al-shabaab hadduu yahay dawladdii annaga dhan nabad hogaaminaysay oo asaga madaxda u ahayd oo annaga dhan madaxda noo wada ahayd aa soo dhaweysay ma aragtay ii sheeg tallaabo sharciyana ka qaadi weysay maadaama ay dawladda ayada ay soo dhaweysay markii hore hadda maxaa keenay in la dhaho mukhtaar roobow waa shabaab mukhtaar roobow shabaab hadduu yahay farmaajona waa shabaab kheyrana waa shabaab shalayna shabaabnimada ayagaa isla ogaasha iyagaana xasuuqayo ummadda soomaaliyeed markay shalay isla xasuuqeen maantana in la isku fahmo hadduu farmaajo uu diidan yahay waxaa la yidhi bahal nool ninkii barbaarsho ama ka boqsay ama boqno gooy waa mahadsan tahay aragtidaada saliimka ah waa mahadsan tahay qofka ku xiga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا صدوا كبير فكرة هذا ما واحد تقف معارض مختار روبو مس قف تاجرسن. مختار روبو علي أبو منصور أيان تاجرسن هاي بقول كيف بقول تاجروا ويدافتي حد استاجن أنا قدام ووضع روبو يسمى هاي. وكسلام يا عزيزي دمان صومالي زماشي كجرتو. مختار روبو علي أبو منصور ونين reer koonfur galbeed iyo guud ahaan geyiga Soomaaliya hadduu ku soo biiro aan isleeyahay dhibaatada maanta Soomaaliya musuqmaasuqa iyo corruptionka iyo dhibaatada lagu hayo inuu ka saari karo aan aaminsanahay waaye farmaajo iyo khayrina waxaan u sheegayaa oo fariin u dirayaa mukhtaar roobow aqoon badan uma ay laha haddii faragelintan iyo dhibaatadan maanta ay ku wadaan koonfur galbeed oo mukhtaar roobow xilkan ama madaxweynenimada koonfur galbeed oo saan asiga ku waayo godkooda biyaa ugu soo galay dab baa ku shidan 30,000 oo calibeysteen ah oo digil imrefla oo baadiyaha joogo soo kaxaynaya wuuna ka aftahansan yahay waa aragtay farmaajo iyo khayre waxaan kula talinayaa inta ayaga ay la ordi lahaayeen nin asiga noloshiisa u dhacay oo ka dhacay mukhtaar roobow cali abu mansuur ha taageerana hana la heshiiyeen
soomaaliyana dhibaatada ay ku jirto dadka soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin sidii looga bixin lahaa oo looga samata bixin lahaa ee dadkan nabaddiidka meel walba qabsaday looga safayn lahaa dhulka soomaaliyeed ha raadiyana intay ku wareegaysan lahaayeen wax aan macno lahayn waayahay aadaad u mahadsantaha aragtidaada saliimka qofka ku xiga ayaan telefoon ka qaban doonaa iyadoo aragtida dhegeystayaashu ay yihiin mid qof waliba uu soo bandhigi karo qofka uu taageersan yahay iyo haddii uu mucaarsan yahay asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلوان واكو سلامي وكا قادة متى لمدة مختار روبو متاجر سنتا مسوات كسو هرجدا مختار روبو وان كسو هرجدا وحانا وسو هرجدا وانين الشباب نوحوي يدير لمسو دويستو وحانا وسو هرجدا عالمكو حدي نكالا دورتو دي الصومالي دو وحانا هركا مركا الشباب وهي نكاس وانين الشباب السركال كان الشباب دad badan laayay marka koonfur waxa isleeyahay aniga waxa weeye meeshatan maamul goboleedkan waxa la oran karaa marka dadka taageersan dadkii waxa weeye la shaqeynayay oo maartay al-shabaab baa la oran karaa la oran karo dad caadi ah ma garan waxay leeyihiin laba sharci ka qaadaa dadka qaar waxay leeyihiin mukhtaar robow mabdii uu ka soo laabtay wuxuu la mid yahay dad badan oo mabda'aasi aaminsanaa oo qaarkood hadda saraakiil ka ah dowladda Soomaaliya marka maxay kula tahay adiga taa aniga waxay ila tahay caalamka oo dhan hadda uu fiirsanayaa uu u jeedaa mana ogola marka caalamka oo dhan marka Soomaaliya waxa la qorayaa Soomaaliya oo dhan waxa la qorayaa marka argagixis waa in waxaas oo dhan laga hortagaa waa in ninkii shalay dad laayay shalay waxa weeye intaas oo qof laayay dadka isku qancinaya maanta madaxweynaha loo doorto taa qofka asbacaya qofka yeelaya oo dhan qof waalan baa warka ma garad dowladdu way talaabo sharci ka qaadaa waa in xabsiga la geeyaa inuu social hama in soo daayo ma ma garad dowladda aniga qalad ka saaraya ma garad nishay argixisa waayahay marka waxaad leedahay mukhtaar lama aamini karo ayaad adigu aaminsan tahay waxaadna leedahay in wax laga qabto dowladdu ay wax ka qabato ayaa muhiima u sheeg taageerayaasha mukhtaar robow sidaad adigu uga soo horjeedo dowladda fariinta ugu dirayso qaabkee aniga waxaan dowladda fariinka ugu dirayaa waayo caalamka oo dhan hadda Soomaaliya indhaha ku hayaan bilkaws ninkii shalay ahaa al-shabaabka ahaa intii maanta in madaxweyne loo doorto waxay ku taageerayaan ninkan shalay intee qof laay intaas oo kun oo qof laay dadka taageeraya waxay ku taageerayaan ninkii shalay leynayay ee bireynayay ee shalay waxa weeye qarxinayay inay maanta taageeraan teeyaaba la oran karaa iyaga aniga ninkii taageera in la xiro xabsiga la geeyo xitaa wixii taageersan baaba oran lahaa isaga ma haba lagu daro oo hal la xiro dadka taageersan ha lagu daro mukhtaar robow ayuu yiri dhageystahaasi aaminsan mukhtaar robow inuu yahay dambile aanan wali lahayn mabda rasmi ah oo wiilka ku qanci karayo qof walba ma taageersantaa mise waa mucaarasantahay assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلون وكسلام هاي وكا قادة متى لمدة ما تاجرسنتا مختار روبو مسوات كسور جدا ماي ما تاجرسني أدبان وسور جدا حاد كوديدي sababta waxaan ku diiday in shalay ahaa al-shabaab welina intuu fagaaray aan ka noqon qadiiddiisii oo ku baabi'iyay ama ku laayay dadka Soomaaliyeed oo makhaartiga laga waday ay waqtiga uu xilka hayay oo ahaa warfaafinta marna gudoomiye ku-xigeenka wuxuu barqacad magaalada Muqdisho ku laayay dad fara badan oo ahaa arday takhaatiir iyo xukuumadaba wuxuu kaloo ka dambeeyay uu sheegtay qaraxii saamaha iyo harkaa waxa oo kale uu sameeyay shirqoolo fara badan oo Soomaaliya ah wuxuu ka hadli jiray idaacadaha wuxuu maalin kasta fagaaraa ka sheegi jiray ummadda Soomaaliyeed cidda ayaga aan ahayn mooyaane kulli la xansuuqo la laayo dhiigooda la banaysto marka waxaan la yaabanahay dadkan Soomaaliyeed meesha ku jira ee taageeraya ma baqdinba u taageerayaan miyay waalayihiin wax ka siiban la yaabanahay waa shakhsi ummadoodii barqacad sanado badan ku takrifilayay maanta markii madaxweyne looga dhigo koonfur galbeed ma wuxuu doonayaa marka Soomaaliya gebi ahaanteedba inta koonfur galbeed xukuumaddaas iyo waxa dhisanayo inay wada qarxiyaan ummadda baabiyaan fikradeyda aan waa ka soo horjeedaa waxaana mas'uuliyadda ninkaas inuu maanta sharaxo saaraya xukuumadda jirta waxaadna talaabo ka qaadaan waxa sida muxuu ahaayay wadaadkii Xasan Dar Aweys dhaqan celin loo sameeyo
meesha uu ku jiro la geliyo halkiisaas uu ku subxaanlaysto oo ilaahay cafis weydiisto ummadda soomaaliya cafis weydiisto laakiin maanta aniga ilama ahan ilaahna wax ka barya inuu ummaddan ka qabto kana samata bixiyo waa mahadsan tahay aad u mahadsan tahay sida quruxda badan aad fikirka noola wadaagtay dhegeystaas wuxuu yiri ummadda laga qabto Mukhtaar Robow wuxuuna sheegay in waqtigan aan lagu aamini karin dawladda ayuuna dambiga ku sheegay inay sii fiirsato inaysan ahayn wuxuu yiri hal dhaqan celiyo waa sidoo hadalka u dhigay sidii Mukhtaar sidii Xasan Daahir Aweysna qol hal lagu xiray ayuu yiri way salaamu calaykum qofka ku xiga وعليكم السلام walaal soo dhaw aragtidaada ku biiri ma taageersantaa mise waa mucaarasantaa Mukhtaar Robow walaalow horta Mukhtaar Robow anigu ma mucaarasani laakiin waxaan diidanahay xilkan inuu qabto ma ogoli maxaa yeelay Mukhtaar Robow waa nin hadeertaan ii sheeg xaaladiisu aysan kala cadayn midda labaad yacni qofka al-shabaab badema maaragtay ii sheeg ninkii u weynaa al-shabaab oo amiirka oo meel uga baxayan jirin oo ummadda islaamka xasuuqay oo intaad aweeda dhibaataa geystay in maanta inta la yiraahdo maaragtay iska imow iska soo orod oo haddana madaxweyne waddanka ka noqon hadii horta wax aqli gala maahan ummaduna inay caqli yeelato oo maskaxdeedu shaqayso oo yacni wala 30 sano ay dhibaato qabyaalad iyo balaayo kasoo daaleenay qabyaaladan ay la ordahayaan oo naagaha wada fadhiyo iyo nimanka maaragtay qurbaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurub iyo America Australia wada fadhiyo oo maaragtay stresska isaga bixinaya inay wada hadlaan kaliya isaga bixinaya ummadda muslimka oo dhulka ku baabaadsan horta yeena fidnayn baan leeyahay war dadka Soomaaliyeed oo gudaha joogo dadkan qurbaha joogo stresska umbe rabeen iska saaraan naago iska wada xashish cabiya iyo maaragtay niman iska wada muqayyidinaha iska wada fadhiya meelaha dhan marka ummadda horta yeena idin bahalka garanayda dhibaataynin nimankii oo maaragtay sheeg barnaamijyada dhibaatada badan dadka u keenayo maalin walbana oo qabyaalada oo ka sheekeynayana warniyo ummadda wax san u sheega wax fiican ummadda u sheega waa u soo noqonaynaa taa Mukhtaar Robow sheekadeeda aan sii wadno marka Mukhtaar Robow adigu waxaad tiri hadda inuu hoggaan qabto ma ogoli maxaad ku diiday waxaan ku diiday Mukhtaar Robow waa dambiile waa al-shabaab waa ninka ummadda xasuuqay waa in lala xisaabtamo waa in maaragtay ii sheego dadkii caruurtii masaakiintii iyo hooyooyinkii uu dhigay nin la'aanta iyo agoonta iyo aboyaanta iyo dhammaantood dadkoodii baabiyo dhan baa taagan warsee markaa ii sheegeen loo leeyahay maaragtay madaxweyne ha noqdo soo dadku cadaalad iyo caqli midna ma lahan maskaxda maxaa dadka wada tiray midda kale labaad oo maqlahayay oo meeshaan ka dhagaysanaya waxaa ka mid ah qof walba wuxuu leeyahay inta dad aan soo maqlay waxay leeyihiin maxaa kuwii horeaba ka horreeyeen oo kuwii hore hadday dambiilo yihiin oo ay ka horreeyeen soo in ayagana maxkamadda la wada geeyo cadaaladda la wada geeyo maahan midda kaleeto al-shabaab nin ku jiray oo amiirkooda ahaa oo ninkii asagu abaabulay ahaa iyo nin member ahoo xibin ahoo maaragtay askari xun soo noqday oo soo wada fakado la soo baray isku mid maaha ninkan waa ninka asaasay waa in lala xisaabtamo waa in maaragtay ii sheeg la geeyaa maaragtay tiirka weliba la geeyaa haddii ay xitaa dhaafi weydo dembigaas lagu hela intuu baabi'iyo xaggee aqara u diray ma meel cidlaaha looga tegaya ummaddu qabyaaladda iyaysan maskax iyo dhaga tirin maskax iyo dhaga yeena tirin qabyaaladda midda labaad farmaajo iyo khayre nabad waddankan ogama horreynin guul waddankan ogama horreynin askarti marya calas tahayd kuwaasaa maanta tasharafta leh gabrihii xafiiska waraaqaha u qorahayay madaxweyne ilaa iyo bahalkiga kuwaasaa maanta dadkooda ay waraaqaha qoran hayaan gabdhihii maaragtay mushaar la'aanta ahaa iyo wiilashii mushaar la'aanta ahaa oo maalin walba maaragtay ii sheegay laaluushka inta $10 $5 aan waayi jirin kuwaasaa maanta tahaybada leh isxilqaan kuwa waddanka la dhisanayo war dadka waddankiina dhista naagahan iyo nimankan meelaha iska wada fadhiyo oo waxay wada sheegaan garala oo maaragtay ii sheeg waxay sabodgarayaan garala oo dhiigga ummadda ku naaxay iyo kuwa maaragtay iska dhigayo koonfur galbeed dad sharaf leh baa degan kuwii xaaraabinta guryaha muslimka haystay oo la og yahay oo beeraha haystay way wax meesha ka qaylay wadhowdaan marka ummaddan yaa la fidnaynin dadka si fiican maaragtay programka loogu daadiyo dadka wanaagsanna dawladooda ha taageeraan maalinkay sharaf yeelato ay xoogaysato oo ciidanka iyo xuduudaha iyo wax walba la helo nin walba waa lala xisaabtami doonaa laakiin maanta nin mujrim oo hawd ka soo baxay waddan looma dhiibahayo aad u mahadsantahay wuxuu yiri ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed hala taageero buu yiri dhageystaasi hadalkiisu waanu u badnaa laakiin almuhiim wuxuu yiri ninka waa dambile Mukhtaar Robow yaan la taageerin wuxuu sheegay dadku inay qabiil ku taageerayaan hadda laakiin Mukhtaar Robow laga shalaynayo waa mahsan yahay qofka ku xiga assalaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام عبد الله بن مغشع واكم مقلا sidoo kale soo dhawow Mukhtaar Robow ayaan baarayaa bal heerka shacabku ay kalsooni ka qabaan waxa tahay qof inta badan dadka si weyn u yaqaanaan oo barnaamijkayga ku xiran wax badan baa falaqayn jirtay intaanan Mukhtaar Robow ku weydiin wararkii ugu dambeeyay baydhabo bal ummadda Soomaaliyeed sida guud uga sheekay kadib ayaan su'aal ku weydiin doonaa اولا horta
cabdullaahi waan ku salaamay adiga iyo soomaali weyn iyo intay maqlayso run ahaantii horta ereygii maanta galabta aan ka dhawaajinayo oo ahaa isbedelka oo gacanta midig iyo gacanta bidix ereyga hadda maanta aad jadwalkaaga aad kusoo ka faahfaahinayso oo dhehaysa dhinaca Ethiopia inay kusoo dhamaanaysa anigu waa dareemayo hadda ka hor doorashadii Mareykanka ka dhacaysay ninkan madaxweynaha hadda Donald Trump gabadhii oo ka horeysay sumcadeeda waxa uu ku dilay ama uu hakadka ku geliyay waxay ahayd waatii uu uga furay kiis nabasuuda markii dambana ay ku dhamaato la yiri ma ahayno hadda ay uga garaabeen markii doorashadu ay dhacday ka bacdi waxba lama qaban karo doorashadu mar haday dhacdo hadhow raalli ah wax ma tarto markaas waxa la yiri gabadhan inaan dambiga ku furnaan ma ahayn mana aanan hubin marka dana gaar oo shakhsiyadeena gabadhaas kursigaas ay ku weyso wax dhan oo kursiga Mareykanka ay xisbiga dimuqraadiga ay ku waayeen kufuritaanka lagu furay la yiri gabadhan email la qaldan isticmaasho waagi ee wasaaradda arrimaha dibadda joogtay ayaa dhulka la gashay markii dambana nabsugudu waxay tiri waa ku qaldanna ma ahayn inaan ku furno gabadhan wax aan jirin aan ku sheegno marka waxaan tusaale ahaan uga soo qaadaa Soomaalida in maqlayso hadda ma ahayn hadda waxa maanta aad maqlaayay dawladdu way dhageysanay dawladda horta aniga shakhsi ahaan qofka aaminsanaan ahay qof kasta oo gacan ku dhiigla ay maxkamadda xukumin oo maxkamadda soo fasixinay wixii lagu xukumo uu soo qaadinay dadka hor imaanay cafi inuu soo gaan qaban ninka aaminsanaan ahay balse dawladda ay hadaad maqlayso taliyana basugudaya waa halbowlii sirdoonka qaranka yaa hayo waa ninkii sirdoonka shabaabka ay haddana asaga fadhiyo taliyaasha ka hoos ka urdaad ilaa unugta tag yaa waa isla ayag yaa ninkan hadda Fahad Yaasin iyo Xasan Cali Khayray qaramada midooba kiiska lagu furay oo lagu kulliya la dhahay waa isla ayag marka dawladii ayadiyaaba ka soo hadana ka gudub taliyaasha militariga aad indhacada yuu ahay asagoo waxa uu geed qaba jiray yuu ahay waa ka wada daraayiga ka soo gudub hadana oo ka tag dawladda dhanba marka wixii marka hadafka uu ku fadhiyo Ethiopia ay rabto loo adeegsado ayaa waxay tahay ninkani waa nin qabiilka xaqiisa aan laga mari karin danaha qabiilka gudaha markii la aado aan ogoleen horta qofka qabaanka qofna waxa waaye jeebkaaga gacanta laga gashan karaa qofna waxa waaye shilinka aan wadana isku darano waa ninka marka aan isla shaqaysanne ayga shaqaysan waa warkiisa marka ninkan wuxuu ahaadaba waa ogeedo Mareykanka liiska ka saaray qaramada midooba soo cafisay dawladda wada hadal oo isma soo dhiibin wada hadal ay soo wada galeen way yimideen way tageen intay tageen marka maanta in lagu dhago waxa keenayo hadalkaas Cabdullaahi iga qor Ethiopia waa qasab way qabaneen ninkan waxa la geeyaa gaal shire markii doorashada dhacdana waxa la leeyahay heer koonfur galbeed raalli ahaada idima maleehay lacagtan qaata qaladay ku dhacday warqad qalada la soo jaray sidaasay ku baxday amarkan maana ogeyn filinkaas horta ku soo dhamaana aakhirkiis laakiin waa shaki ninka in la qaadayo horta danta laga leeyahay doorashada markay dhamaato waxa la leeyahay Abu Mansuur raalli ahaaw heer koonfur galbeed raalli ahaaw dad annaga noola naxayo oo shacab loo naxayo oo la leeyahay dadka laga qabta hadii la leeyahay nabasuguda looma dhiibeen ninkan Fahad Yaasin looma dhiibeen wax allaale wixii dawladda ku jiro dhan laga saari lahay marka waxba annaga dawladday hanoo sheeginine filinka aawadiin oo dhan hadda aniga idin sheegaa filinka aawadiin waa sidii jandaayf gabadhii oo xisbiga jamhuuriga u tirtay dimuqraadiga u tirtamayso kala rabtiin in lagu furo la soo qaado inta keetiin birina aadaadin heer koonfur galbeed oo raalli ahaada qaladkan waxa sameeyay afar sargaal iyo maxkamadda samaysay annagu beriya ka nahay lacagtan qaata filsaasa ku soo abjiri rabtiin laakiin annaga waxaa nooga weyn maanta waxaan leeyahay dawladda sida aad ku socotiin ninka hadduu maanta ay dhacdo Ethiopia ay qabato ay geyso wadanka lagu kala tagaa meelaada filin hoostiina holac ka kaca sababtoo ah nin kasta wuxuu ogaanaa in bixi loo soo wada ciidan waana sax Cabdullaahi waxaan ku leeyahay Ethiopia ciidan waxay soo wadataa badeed waa imaaraadka lagu tababaraa waxay soo socdaan Soomaaliya saldhiga la keenay rabaa ila tiri ciidan laga soo wadaa ciidamadaas oo dhan waxa la soo kordhinaa ilaa 8 kun la keenay labada dawladood waxa la leeyahay marka Uganda iyo Djibouti ay iska baxaan
labadaas markay iska baxaan kuwana waxay leeyihiin mandate ma rabno waa Soomaaliya calaaqada naga dhaxeeyo heshiisa naga wada dhaxeeyo waa Britaarayna macnaheedu waxay tahay 30 sano ayaa lagu haynaa nimankan waana mid aan ku dhihi jiray danaha Ethiopia ay ka leeyihiin ay ka leedahay Soomaaliya waa dana fog ninkan marka Ethiopia danteeda hor istaaga marka ma rabaan inay hore u tuuraan waa wax sakuura oo banaanka yaala laakiin wuxuu ku badbaadi karaa siyaasiyiinteeda maanta shiray haddii yiraahdeen ninkaas hadda soo qaadeen wixii meeshaas ka dhacay dadka mas'uulka ah ee hadda qaramada midoobe UN-ka wax walba ay u sheegaan uga hormariyaan falka markuu dhaco ka hortaga roona ee kadaba tag xabad ma taro marka filinkaas inuu dhacay aniga waxba iga muuqdo waa si cad igu muuqda marka anu Soomaali waxaan dhiilahay waxba hadinina ninkan san way ninka gacan ku dhigla waa run waa nin ummadda soo halaagay oo baabiye haddana yaa way kuwa ka sii darana meesha noo fadhiyo kaliya safiirinina inta cadda kamida nabasuugta kamida horta xiradaha la soo dhaqo waxna la soo dhaqo aysan ahayn waxa dhanba u jeednaa Soomaaliya runta isu sheegno loo mooyaan inuu yahay asay u taala heer koonfur galbeed marka Cabdullaahi aragtidayda intaas waxaan ku dararabay filanka Ethiopia inuu jiraayo anigu maanta aan ku dhahay qabiilkiisa waa waxa loo adeegsanayo qabiilka hadii la waayo halka albaabna wuxuu ku dhamaana alla soo qabta hal xiro doorashada ma dhacda haddana hadda hal laba saxiix la yiraahday raalli ahaada filinkaas laakiin dawladdan waxaan leeyahay tilaabtaasu waxay dhali doontaa siyaasiyiin idin ag jooga oo idin la fadhiyo in meesha lagu filla Soomaaliya lagu kala booday tagaysa sababtoo nin kasta wuxuu ogaanaa hadduu oo fikirkiisa cabiro inaan sida u galaysiin marka dawladnimada iyo god laga tuurinaa dheelay annaga dad dhibanaan nahay waa halaagsanay waxaan rabnaa dawladdu inay hor u socoto tilaabta qaadaysiin ka fiiriya rabitaan annaga aan rabtaan ma ahine waxa waaye sidii xisbiga jamhuuriga Mareykanka looga raayo kale xisbiga dimuqraadiga looga raayo kale ayaa rabtiine wadanka godka ku ridana Adil Cabdullaahi marka aragtidaas meeshaas ku fadhida aniga aan ku qiyaas falanqeeya arrimaha siyaasadda inta badan si weyn ugu xiran barnaamijkayga oo arrimaha fara badan ee siyaasadda dalkana ku dhoondaleela ayuu ahaa maxamed cali aad u mahadsan tahay qof waliba maanta wuxuu ogaan karaa hal maado waa sidan hore idinkugu sheegay Mukhtaar Roobo waxaa la rabaa in loo adeegsado ciidanka Ethiopia ee jooga Muqdisho ciidanka Ethiopia ee baydhabo jooga way soo xirayaan haddii uunan ku badbaadin horodhici barnaamijkan ku sheegay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ku shiray fadlan reer koonfur galbeed Mukhtaar Roobo waa loo soo socdaa waxa loo qabanayana wax kala ma aha waa la xirayaa markay doorashadu dhamaatana sorry ayaa la idin leeyahay ileen kama liidataan ama kama wanaagsanidin inta Cabdiraxmaan Cabdishakuur inta la xasuuqa dadka la yiri sorry marka raalli aha waa lagu leeyahay doorashadana waa la dhaafinaya waxa badbaadi kara alla ka sukow xildhibaanada koonfur galbeed ee Muqdisho ku shiray oo aan ogahay barnaamijkan inuu gaari doono waxaan idin leeyahay u diyaar garooba qof kasta oo reer koonfur galbeed igu caawiya inaad siyaasiyiinta koonfur galbeed aad wargelisaan oo aad sheegtaan in warqadani Mukhtaar Roobo lagu soo qabanayana wargeliya waan ogahay barnaamijkaygu xildhibaanada uu gaaraya waxaan idin leeyahay iska ilaaliya waad u jeedaan shacabkii oo dhan ayaa idin baaqaya barnaamijkaygu adeega bulshada ayuu fulaya sidaa darteed iska ilaaliya waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeed sida ku baraaruga Soomaaliya iyo fahamka maamulkan hadda koonfur galbeed lagu muransan yahay odagaan inta la soo xirin baarlamaanka u diyaar garoobo haddaynan baarlamaanka dawladda wargelin oo aynan hay'adaha ama beesha caalamka loo sheegin arrinta waa la fulinaya laakiin u qoraallo beesha caalamka cadeeya Mukhtaar Roobo qofka celi karta Amisom baydhabo ma joogto run ah la isku sheego waa la soo qabanaya haddii aynan xildhibaanadu way kala u sameyn waa weyga kaliya oo maanta dhici karta isbedel lagu imaan doona maxaa yeelay dawladdu aad bay u dhigaysataa barnaamijkayga dawladdu waxay aad ula socotaa barnaamijkayga fariintii hore ee xir ilaalinta qaranka anaa sheegay markii aan soo bandhigay oo barnaamijkay ku soo bandhigay xir ilaalinta qaranka warqadda cancel baa lagu yiri maantana Amisomna waan idin sheegaya waa qorshaha ugu adag haddii dhan kasta laga waayo reer baydhabo arrintaana lagu samayn doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii barnaamijka ka qayb galay dhammaantood siday u wada dhan yihiin waxaan caawa baadi goob ku sameynayo oo ugu dhigayo ummadda inta taageersan iyo inta mucaarasan Mukhtaar Roobo oo doonayo inuu ka noqdo madaxweyne koonfur galbeed dadka taageersan ayaa ugu badnaa dadka isoo wacay dadka qoraalka ku taageerayana dhammaantood Abu Mansuur ay ahaayeen Mukhtaar Roobo waxa muuqanaya inuu dadka kalsooni ka helay boqolkiiba boqol Mukhtaar Roobo dambile inuu yahay inuu dhiig yacab yahay cid qarin karta malaha laakiin waa la mid waxa la mid dad waaweyn oo villa Soomaaliya jooga isku mid ay yihiin
madaxa sirdoonka al-shabaab waa madaxa sirdoonka soomaaliya ninkii sheegtay qaraxa hoggaanka abaabulayay qaraxa hotel shamu ka dhacay muddo hadda laga joogo 9 sano ka hor waxaan idin xaqiijinayaa inuu yahay sirdoonka soomaaliya ninka maanta hogaaminaya cid joog u dhihi karta malaha waxaan idin sheegayaa sababta mukhtaar loo haysto mukhtaar dadkiisa jiifa mukhtaar roobo dadkiisa jiifa mukhtaar roobo dadka hadda isa soo dhiiba keligiis maaha mukhtaar roobo keligiis maaha laakiin mukhtaar dadkiisa jiifa maanta wuxuu ku badbaadi doonaa inay dadkiisu kacaan wuxuu ku badbaadi doonaa in dadkiisu ay runta sheegaan dowladduna ha nadiifiso gudaheeda sirdoonka hadduu xoogaa saxaabta ay noogu jiraan meel kasta dhilqa ku jiro dhilqada marka in la wada hurgufay ku fiican tahay maaha dhilqada kaliya raxaweyna laga adag yahay maaha idinka la idin socda digli midifle ogaada barnaamijkiisaan ku baraaruga barnaamijka waa soo gabagabeynayaa aad u mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaan kun jeer u mahadcelinayaa dadka waqtiga geliyey waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkii qayb ka qaatay oo barnaamijkan igala soo xiriiray intii falanqaynta igala qayb qaadatay waa mahadsan yihiin shacabkii daawanayana waan u mahadcelinayaa barnaamijkan waa laga tirtirayaa facebooka markuu live ku dhammaado insha allah waxaan rajinayaa magac mukhtaar roobo qof wataa isoo wacay magacaabi idileba السلام عليكم halo السلام عليكم magaca dartiisan kaaga qabtay barnaamijku waa gabagabo mukhtaar roobo ayaa la baxday marka soo dhawo dalwaro waan dhawahay xilli dhaxan waa la maraya welina Soomaali baan joogaa dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan ka mid ahay taageerayaasha mukhtaar roobo haye waxaan leeyahay kow mukhtaar roobo waxaan ku taageersanahay waa mataqaanaa oday Soomaaliyeed isagoo ah dadkii kuwii wax qarin jiray wuxuu ahaa qof xiliyay ah qof mataqaanaa fiiro gaara dadka bulshada u leh marka arrin kale ayaa raba Soomaalida kale inaan u sheego Soomaalida kale maamulada kale dadka kale oo meelaha kale ka hadlayo intaas anaa leh intaan kula lihi wax soconaya ma ahan intaas anaa leh ninkaasna anigu naga soo jeeda oo anaga rabno laakiin waxaan maqlayaa dad kale oo hadlayo meelaha ka hadlayo waxaan dhihi lahaa Soomaali baa leh mar hore ahayd laakiin maanta waxa la marayaa maamul goboleed kasta maamul goboleed dadkii bulshada ku dhagan baa leh anaga leh maamul goboleedkan Soomaali kana ma laha ma garad waa sax marka dadka hadlaya oo araysan oo qabyaalad dishay oo qabyaalisa u gashay waxa dootaan baa sheegi kartaan ninkan anaga rabno anagana u baahan waxa idin kama gelin farmaajan waxaan u sheegaya iyo khayre hadaa ma taqaana Soomaalinimo aad kulba Soomaalinimo ma rabtaan inaad bulshada iska horkeentaan waa bartaan waa fashilanteen waxaan leeyahay hamar baa la idin doortay Soomaalidan ma baahan bad sheekad waa isbedeshay marka waxaan leeyahay hadaad wax taraysaan ma taqaana hamar wax u qabsada maamulkan anaga leh hadaad leedihiin madaxweynaan nahay madaxweyne laguma noqdo yaa marka waxaad leedahay ha laga digtoonaado waa maasan tahay aad u maasan tahay sida quruxda badan ee aad fikirkaada u soo bandhigtay wali barnaamijkii ayaad la soconaysaan gabagabo barnaamijkan caawa waxaa ka dhanka toos barnaamijka u dhageysanayay xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya wasaaradda amniga oo aan uga mahadcelinayo waqtiga qaaliga ay geliyeen la socoshada barnaamijka wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa codsatay in aan ummadda su'aalo ka weydiiyo arrinta mukhtaar roobo ku aadan laakiin qoraalada hadda aan ku mashquulsanaa intooda badani waxay ka tarjumayaan in wasaaraddu ay leedahay dadka aad adigu qorayso ha wicin dadka marka wasaaradda amniga iyo dadka inaan qanciyo ayaan rabaa wasaaradda amniga waxay leeyihiin dadka telefoonka u dirin adiga wasaaradda amniga bal dhageysta بل حدنا وان قبنا يا وزارة أمن قديه نفرع السلام عليكم وعليكم السلام عبد الله بلوان يورم عوض دنام كجوع وارن يورم هرت وفي عنا بقول كيف بقول وزارة أمن وحيلا ده قف كان حد إلى هلا يا تلفون كأديجا أدري وشيك دتك كداونا يا وزارة أمن جبا إن أديجا يسوي عدم كسوي يا عوض دنا دارني وفرهابي حنوني سنوع اتياد بالله الله حتى ما عنده قابه دغهينا دغيسا هداتي وزارة أمنية إيه وزارة قرقة هداتي هي روبو نو فرق نو فرح كقاد روبو وانيك الربو روب الله نو سو دواي 4 سو قل ربا دولة دتنا حي إيه وتشي كذا حي
midda labaad qof aan farhooda dhiig ku jirin ma horta joogto haye dowladdan la warama dowladda Cabdullaahi Balwaan cawada ciilkeeda bisteed la nahay horta manaantaan ay waa fursad ku siinaya wasiirkii amniga hadda kula socdaa way uguna ku dhageysanayaan waa ku dhageysanayna anagoo dhan dhagahaaga ku yaalo qoorta iyo margeeda inta u dhaxaysa ii duleeli mandhow aan warqaaga ku goobiyaa roobow waa ninka la rabo roob ilaahay noo keena waaye nin kasto farhiisa dhiigu kula jiraa oo muuse suudi wuxuu ku jiraa golaha shacabkee maasaa brisnessy haye dhagow hoobiyi noogala dhacee waxaad ku dartaa ninkan naba sugidda ku jiro adoogiis iyo habartiisa u dhalan maha dhiigga nugula soo babiyey maasiga maana keen haye aniga kula warramaayo waxaan ku dhaawacmay guriga hooyooyinka haye qaraxa igula dhacay haye waxaan kula jiray wariyaashi la qarxaayay ayaa la joog haye maqaayada village haddii la yaqaan 2013 waa liibaan iyo allah u naxariistay liibaan iyo cabdisataar markii la dilayay iyo maxamed yaasiin oo reer dhiglay cabdiraxmaan yaasiin aniga dhaawacaan ahay 2012 ay ahayd wataye ahey isaxiil jawiya cawada bistay la ahay nimankaanaba madaxa naxanuujiyeene nimankaan diyees barada ah oo xamar lagu soo wada dhoobo xabad hadday dhacdana dabada leylaayo xabad noo tiri maayaan yaa runta la isku sheego haye yaa hadda xamar markaan joogi jirna hadduu firin bedel la dhaco waxay leeyihin xaa soo dhacay arrin warkooda kuma jirna ku roobow maha qabo rabbiyaa kula oge rabbiyaanu magacaaga ku magacaabaya roob ilaahay keena waayo waana qabaa ilaahay idinkiis haddaan nahna reer Sweden waa ku banaan baxayna hadday ka soo horjeestaan banaan bacana waa gulayna anaga ya markasta waxaan maqlaynaa mushiilay wadaan mushinka haddaad joojiseeno Ethiopiana waxaan noogu soo wadaan marka iyo qoryoolay waa ogya iyo elektriyaan haye midda kalena waxaan u sheegi rabaa cawada hadday ay wax iga dhageysayaan dowladay minaana rabtiin waana rabnaa minaana rabinina horta nabad iyo nolol naxdina ka dambeysay nabar iyo naxdina u dambeeyay wadnayna waa gariiray soo guura islaana intaanu soo guurayna hoobiyaan ugu badasayna qarxin waa ugu batay oo cawada madfac dacana lo qumiyooya lo la reeriyo dadka dhaawac waa ku xuyan haye aniga dhaawacaan soo maray dhaawac xanuunkiisana aqaana haye waa lug iyo gacan iyo qoor iyo dhabaranka uu iga wada galay xanuunkiisaan oga marka waxaan rabnaa roobow cawada aanu koo dhana u damaashaadeeno roobow horta nimankaan nabar ii naxdeen waxay diidan yihiin roobow arbaco dhashtaa la yidhi waa ka nexina habeen maalintii dhaweed waxaa ku jira gaara soo sheegay arbaco dhashtaa la yidhi arbaco oo ku biiraa la nimankii madaxa noo qoyhay arbaco soo sharaxay arbaca ku dhuf xaa ka soo baxay ibrahima ka soo bixi hal xabad tabad laakiin waxa la yiri muxtaar roobow lama aamini karo ayay dawladdu leedahay wali ninku nadiif ma aha baa la yiri marka adiguna waxa leedahay ninka hal la aamino sidee loo aamini karaa bal ka dhaadhici dadka wuxuu nadiif ya fiiri muuse suudi ma nadiifa waa la aaminay golaha shacabka ku jira ninkan la dhahayo amniga joogo haye oo shabaabka kamid ahay asigana ma la aaminino haye يا من الدهر جوج حتى مدحتوين مدا ku jiro oo iyaga ma aaminino الريفرماجو adiga taangiga dabada ka galay madaxa laga qoy raba nimankii ma soo urusay yani kan iyo daahir waa muwaadin abu maasay ay dhageystaasi wasaaradda amniga ayaan ku qancinayay oo waxay yiraahdeen wasaaradda amniga telefoonka adaa wacaya waxaan mar kale leeyahay wasaaradda amniga aniga telefoon barnaamijkayga ma waco gacmahayga waad u jeedaan telefoonkan aan qabanaya fiiriya waa ka wasaaradda amniga qanca wujida gacanteeda telefoon aniga ma diro qofka isaga ayaa barnaamijka soo waca wasaaradda amniga mar kale dhigiina fura qofkani asaga telefoonka soo wacay salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله soo dhawow aragtidaada roobow iyo faahfaahinta aad isleedahay ku darso وني horta Cabdullaahi waxaan la yaabanahay waxyaabaha socdo haye ninka hadda hadlaayay horta roobow iyo muuse suudi horta inuu isqabalay horta aad ugu xumaay anoo raaliga ayna kaga jawaabaan jeclaan lahaa mukhtaar roobow waa nin gacan ku dhiiglaa oo dadka qarxi jiray oo argagixis ah
haye iyo farmaajo wax ay ka dooriyaan odaygaas ma uu jiro horta ma fahantay gibigood waxay isdhaamaan ma lahan macnaha haddii loo taageerayo ma sheegin farmaajo iyo kheyre diidan farmaajo iyo kheyrena waa laba tuug mukhtaar roowna waa gacan ku dhigli uu dhaafay waxa waaye wuu ku dhex dabaashay ma fahantay haye shalay mukhtaar roowo ninkii dowladda soo badbaadisay oo la sheegayo odiyaad loo kiriyo tasaga mu ahaa mase nin kale waa horta intaas bal horta fahamsiya adoo raalli ah asagoo ahaa isaga soo ma ahayn haddaba dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa macnaha dadka waa ay barteen labada nin oo meesha joogto waa laba nin oo khiyaanoolayaal ah mukhtaar roowowga ay leeyihiin lama raba iyo waa la xiraa iyo doorashada loo diidan yahay dowladda ma wadata dad kale ay wataan magaca uu mukhtaar roowow uu xambaarsan yahay iyo dhibaatadii uu horay uu u xambaarsaday ee beesha caalamka ugu jiri ka dadbanayaan ninka ay wataanna horta waaba isaga ma garatay haye waaba la isboojeenayaaba badan oo dad badan oo soomaali oon waxba fahamsanayna waan u jeedaa war ninkan ay wataan kheyre iyo farmaajo laakiinse waxay ceebkasniin iska dhigayaan ninkan waa nin dangerous ah inay asaga wataan inay caddaatana ma ay rabaan oo indho badana ninkaas hayo horta waxaan aad uga xumahay nin noocaasa in uu hogaamiyo dalaan hogaaminaa ama siyaasiyiinta soomaaliya ka mid noqonaa oo nabadan horseeda inuu yidhaahdo ninkii shalay shacabkii iyo caruurta leynayay caruurtu shalay duurka geliyaa weli duurka ku jirto ma garatay waxaa ku soo haray ninkan xiran oo xasan daahir aweys wax uu ka kheyroon yahay ma lahan sababta xasan daahir aweysna uu xiraya ninkan uu musharax u noqonayo horta waa wax la yaab leh dulanka meesha ka jiro dadka inta ay isdulmayaan wax hagaagaya ma lahan marka adigu waxaad leedahay mukhtaar roobow ma taageersani almuhiim inta aan dadka ka diwaan gelinayay in yar jaanisisi waan ku baryayaa haye farmaajo siyaasad xumadiisa Ethiopia iyo Eritrea buu wuxuu mooday dan nimankii Turkiya ee beesha caalamka indhahooda na tusay uu noogu soo horeeyo noo soo gurmaday maanta in la xumeeyo Ethiopia oo nolol iyo naf raadinayso lagu bedelo qof aan waxba kaaga baahnayn adiga ku caawinayo dhaqaale kaaga baahnayn diris aan kula wadaagin ciifada aan kala dhaxayn xumaan kala dhaxaynin in aad ku bedelato xabashi xun oo naf raadisa horta waa ayaan daro waa ceeb dhaqan xumo farmaajo والله دنك وحقوقه ميلوغا سببت إثيوبيا وكينسان وحتى سيدا كلينك شنا دتك لو عبرينايو إنو ماشان ودتكو عبريو ووليجيسنا وماشي تاغنادو ربا وافرت سنه سو سocotana ugu soo laabto ma garatay laakiin se Ethiopia xil muuki masiin karta farmaajo bilaash wadanka u iibsanaya Ethiopia shalay Cabdullaahi Yuusuf ayagoo 20 kuna ay waxba ka jiri waayeen ayagoo 20 kuna ay waxba ka jiri waayeen iska tageen Soomaalidu habeen walba uraalo oo meedkooda iyo waqtigooda ku jira magaalada Muqdisho laga bixinay birina saasa la yeelayaa horta dad naflaha meesha joogo laakiin dadka meesha joogo maalin walba marka dadka calowga leynaya loo keenay kadib maxay u dagaalamaan inta la keenay ka hor may ka dagaalamaan waa mid aan la yaabanahay ma garatay marka Mukhtaar Roobow iyo nooca la midka inay mas'uuliyadda soo sharaxaan waa xaraam dadka dhahayo waan u banaan bixinay waa taageerina macnaha adduunka dacaladiis joogo sida gaar ahaan dadka Yurub joogo horta faraydu ku godan waxa waaye problem iyo dhibaateynadii ku keeni doonta taageerada ninkaas taageerisan nin dangerous oo adduunka dhan u yaqaan waa ninkaas waa ninkii cayalkeena baabiinay shacabkeena baabiinay sidoo isu soo sharaxi karaa waa wax la yaab leh oo ayaan daran ah ma fahantay inta la isdulmaayna nabad inay dhacdo horta la sugi maayo ma garatay nimanka amniga heesto oo hadda aad sheegaysaan ayaga ana aqoon uma lihi laakiin afkiina waxaan ka maqlayaa in ayagana Mukhtaar Roobow ay la mid yihiin waxa meesha heesto dhanba waa wixii dadka qarxinayay iyo alqaacidadii iyo qashankii iyo jinnigii waaye marka Soomaali waxay damiir yeelanaysaa maalinta ay iska daysanin jeclaysiga iyo qabiilka ay iska dayso ee danteeda garato maalintaas ay guusha gaaraysaa
waa mahadsantahay aad u mahadsantahay sida quruxda badan oo fikirka noola wadaagtay waa kaaga mahadcelinayaa sidaa darteed intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkaygii dabagalka wararka caawa waxaan kusoo bandhigay aragtida guud ee shacabka iyo fariintii ku aadaneyd mukhtaar robow oo dowladdu ay la damacsan tahay nidaam amisom in gacanta lagu dhigo wasaaradda amniga oo ku qanacday hadda barnaamijku inuu yahay barnaamij ummadoo dhan ay la soo xiriirto waxa ay leeyihiin waxaanu si gaara usii eegi doonaa barnaamijyada wasaaradda amniga oo caawa eegaysa barnaamijka waan ugu talagalay inaan ummadana cod ka qaado si ay wasaaraddu u maqasho in qofka lala doonayo amisom inay gacanta ku dhigto bulshadu ay taageersan tahay intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doonno waa cabdilaahi balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo qaybta facebook waa inoo barnaamijka xiga maxaa yeele waa laydinka tirtiraya facebooka marka uu dhammaado live-ka waxaa inoo ballanaa barnaamijyadeena kale cidda doonaysa inay barnaamijka dhegaysato waxay ku biiri karaan janalka youtube-ka ee la yidhaahdo aftahan production ayaad ku biiri kartaa youtube-ka gal ku qor aftahan production halkaas ayaad kala socon kartaa barnaamijka waa laga tirtiraya facebooka nabadgelyo